سنتين وما سنتين لو أنتي نتكسر قبل كشين عاوة حكروا ستة وسقوا مهد علنا برايم مينستر كبودك حمزة عبد البرينا عاوة فرصة إصلاح حسابتن markii laba sano ka soo wareegtay xukuumadda dan qaran inaad hortimaad shacabka Soomaaliyeed si toos ah u galaya mudane ra'iisul wasaare waxa laga joogaa laba sano markii baarlamaanka la horgeeyay ajandada xukuumadda dan qaran iyo barnaamijkeedii laba sano kadib maxaa ka qabsoomay maxaana isleedahay waa laga gaabiyo way tahay in la dhameystiro soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني مركب كوباد وحان أمهد علينا يا مدشة منبر وحان أمهد علينا يا دمان كسوق بقلياش الشرفت له وحان سلامة يا جودهان دتك الصوماليات ملك استوجوغان وديان هاري ريسين مركا I don't know say what malaha meel aan ka baxay aad banaysaan wabaasantiin aad baad mahadsantahay walaalkay muddo 2 sano ah oo ay xukuumaddu jirtay waxaan isku daynay meeshii waddanku markaas uu yaalay inaan ka qaadno oo aan meel kale u rarno annagoo weliba la kowsanay duruufo aad u kulul oo daweydeen aad u dhib badan waddanka oo doorashooyin xoogaa dheeraaday oo la isku khilaafay ka soo baxay waddanka oo abaaro aad u culus ay ka jiraan oo dadku qarka u saaran yihiin macluul nabadgelyada oo aan fiicnayn cilaaqaadkeena la leenahay dunida oo aan xoogaa futuur ama caajis ama daal galay intaasi ba iyadoo jirto ayaan nimid marka waxaan isleeyahay waan soo koobayaa introduction haddii su'aalaha tafaasiil ku iman doonaan laakiin waxaan isku daynay markii koowaad inaan wixii ugu darnaa oo ahaa dadka in la badbaadiyo macluul laga badbaadiyo inaan ka badbaadinay ayaan isku daynay waxaan sameynay hay'ado arrintaa u xil saaran dadka Soomaaliyeed baan la tashanay dadaal badan baan galnay caalamkuna waa nagu kaalmeeyay waana la badbaadiyay shacabkeena macluul waa laga badbaadiyay markhaati baa laga wada yahay waxaan طبعا baarlamaanka uu soo ansixiyay 6 tir oo ay xukuumaddu horgeysay waxa ugu horeeyay amniga marka shaqo muuqata ayaan runtii laga qabtay dhaqaalaha iyo dib u habeynta dhaqaalaha iyo hanaankii deyn cafinta ayadana wax fiican laga qabtay oo 2 sano markii lagu dheerariyo la dhihi karo waa wax wanaagsan arrinta siyaasadda iyo dalka isku wadadiisa iyo dib u eegista dastuurka iyo wada shaqaynta hay'adaha dastuuriga ee dawladda ayadana wax wanaagsan ayaa laga qabtay arrinta cilaaqaadka iyo arrimaha dibadda ayadana tallaabooyin muuqda oo ay ka mid yihiin inaan East Africa Community ku biirnay inaan maanta aan dhex fadhino aan adduunka haddii la yiraahdo sanadkan markuu 25 ka bilaabanayo aynu dadka fagaaraha ka taliya inaan ka mid noqonayno oo aan Security Council ka dhex fadhino in cilaaqaadkeenu aad u wanaagsan yihiin oo aan agreements aad u fara badan aad ka garanayso inaan dunida la galay in ka badan 57 heshiis ayaan dawladda la galay oo caalami ah marka waxay ku tusinaysaa in aan caalamkana aan si wanaagsan aan isugu fiicannahay arrimaha bulshada wax la taaban karaan ka qabanay haday tahay waxbarashada haday tahay caafimaadka oo ugu waaweyn yihiin inaan stoorkii weynaa ee kaydka dawladda aan sameynay inaan bangiga dhiiga aan sameynay inaan 100 health center inaan sameynay oo u badan meelihii laga xoreeyay shayaatiinta marka la isku soo duuduubo dalka waxaan isku daynay inaan transform gareyno oo aan ka baxno igu sinta siyaasadda igu sinta oo aan gaadhno siyaasad aan igu sinahayn laakiin meel fiican gee ah marka waxaan ku dadaalaynaa oo aan goosanay inaan dadka inaan talada ku celino
oo ay intan iyo inta la midka ahi in ay ayaguna madax noqdaan markay doonaan ciday rabaanna ay doortaan. halkaas ayaan waddanka usii wadnaa. waxaan wadnaa qorshe aan isleenahay 5 sano haddii ilaha idhahdo oo soo socota waddanku wuu ku socon doonaa transformationa oo aan rabno inaan dalkan kaga bedelno wax badan dhaqaalaha, arrimaha bulshada, arrimaha amniga iyo arrimaha siyaasadda intaba inaan aan waddanka aan kaga bedelno oon horey u dhaqaajino. markaan isku soo duuduubo waxaan filayaa 2 sano tafaasiisha malaha ku imaan doonta, laakiin meeshii aan joognay ma joogno, meel aad uga wanaagsan ayaan taaganahay. maasanta mudane ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay. waxaan toos ugu gudbayaa tafaasiisha markan. haddaan siyaasadda ku hormarno, golayaasha baarlamaanka waxay meel mariyeen 4 cutub oo ka tirsan dastuurka gumeel gaarka ah, kuwaasoo taabanaya arrimo masiiriya sida hanaanka doorashooyinka, awood qaybsiga. sida mar dhaweydna sheegaysay waxaa tiri waxaan diidanahay arna dadka Soomaaliyeed inaan dhaafino igu sinta, balse waxaa jira inay doodo badan ay ka dhasheen. sidaad la socotid mucaarad iyo dowlad goboleedka Puntland waxay sheegeen in dastuurka kii hore ay weli taagan yihiin, midkan cusub iyo isbedeladan ay qayb ka ahayn. hadda furfuridaada waxaad ku furtay inaad markaa imaanayseen laga yimid 2 sano oo doorashooyin adag ah dadka Soomaaliyeed ka yimaadeen. marka hadday mucaaradkiina ay halkaa ka taagan yihiin, dowladdii Puntland oo xubin muhiim ah ka ah Soomaaliya ay halkaa ka taagan tahay, 2 sano kale maynan ku muuqan ee hadda aad taabanaysay. waxaad isku dartay arrinta dib u eegista constitutionka ee socota. طبعا constitutionka dib u eegistiisa iyo doorashada isku dartay. marka haddaan u imaado tan hore oo dastuurka dee dib u eegistiisu muddo dheer bay soo socotay oo 10 sano ah. muddadaas dheer ay soo socotayna waxaa la awoodi karay in 2 bilood constitutionka lagu dhameeyo, laakiin waxaa hor yaalay arrimo adag oo contentious issues la yiraahdo oo u baahan in go'aan siyaasadeed laga wada qaato. siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ka qaataan, gaar ahaan madaxda dowladda dhexe ee fulinta ay horkacayso iyo madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka. arrintaas aad bay u adkayd, way dhib badnayd. wixii inta badan hortaagnay ayay ahaayeen. dastuurka anigu dadka soo shaqayn jiraan ka mid ahay. marka annaga oo ka duulaynaa khibraddaas aanu leenahay iyo dhibka jira ee dastuurka si loo dhaqaajiyay in heshiiska la gaaro ah, ayaa waxaan ku dadaalay inaan active garayno oon si weyn uga shaqayno madashii wadatashay qaran NCC. hadda 2 sano joognay up to now 9 kulan ayay yeelatay. kulamadii hore dhowr kulan oo ah dabcan waa loo dhamaa, Puntland kama maqnayn. waxaan gaadhnay marka heshiisyo culculus oo ay ka mid tahay qaab dhismeedka hay'adaha amniga. dabcan Puntland way joogtay heshiiskaasna qayb buu ka ahaa madaxweynaha Puntland. waxaan gaadhnay hanaanka garsoorka iyo cadaaladda dalka. waxaan heshiis ka gaadhnay hanaanka awoodaha laamaha dowladda. waxaan ama federaaleynta awoodaha laamaha dowladda. waxaan heshiis ka gaadhnay federaaleynta nidaamka maaliyadda ee dalka. waxaanan isagana aan heshiis ka gaadhnay nidaamka doorashada ee dalka. annagu heshiis baan ka gaadhnay, laakiin waxaa iska leh constitutionka dib u eegistiisa finally wax ka gaadhisiisa shacabka Soomaaliyeed. waxaana ku matalayaa golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa ku matalaya. dabcan ayagaan u gudbinay, waxay la tashadeen dadweynaha iyo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada iyo cid walbaba waa u gudbiyeen taladaas. markii ay soo dhamaysteenna ayaga ayaa akhiiran jeexay ama ogolaaday hawshaas. amendments fara badanna ku sameeyey qaybo ka mid ah, gaar ahaan qaybta siyaasadda maxaan ku dhaca cutubka 4. marka 5 cutub ayaa hadda ansaxay oo maxaan ku dhahaa dastuurka ka dhaqaaqay oo dabcan arrimaha siyaasadda
markii la soo xaliyay istahlanaatay in baarlamaanku ay hor ugu sii socdaan arrinta doorashada de waad ogtahay waa run labadii waasaan sheegay inagoo waad ogeydeen doorashadii ugu dambeysay wixii inagu dhacay waad ogeydeen annagu waxaan isniri laba arrimoodba in laga dadaalo waa muhiim markaa nimidba kow in laga dadaalo oo ina dhicin in dib loogu noqdo jidkii adkaa iyo doorashadii dadka uu hebel soo qoranayay oo aan sanadka ilaahay inagaga soo samata bixiyay si yani ya allahu oo waddanku uu khatar ku galay oo cid waliba ay og tahay taas waa qodob inayna dib ugu noqon qodobka labaad asagana waxa weeye waxaanu niriyaysan dhicin sidii dhacday markay 9 bilood hartay inaan dhahno haddaan doorasho aadayna annagu marka waxaan bilownay sanadii ugu horeysayba inaan dhahno waddanku wuxuu aadayaa doorasho qof iyo coda waana inaan hadda ka shaqaynaa shaqadaas marka waan ku dhaqaaqnay waanan samaynay annaga ka xukuumad ahaanna shuruucdeedii iyo siyaasadeedii iyo constitutionkeedii wixii uga baahnayd kulli waa naga dhammaadeen baarlamaanka inay hor yaalaan waxaan rajaynayaa inay baarlamaanku ay mariyaan si ay dadkeenu fursad ugu helaan ayada oo weliba ay 2 sano sii dhiman tahay inay dadku u diyaar garoobaan ma aha keliya doorashada heer federaale kuwa dowlad goboleedyadana in lagu bilaabo oo dadku ay qofka madaxda u noqonaya qofka Soomaaliga uu noqdo qof uu asagu doortay ee uu san noqon qof u soo qoray ama dusha laga keenay intii hore way naga filanta marka taasna midaas oo soconaa Puntland way maqan tahay laakiin Puntland way maqan tahay marka saas loo yiraahdo macnaha waxa ka wada hoggaanka Puntland baa maqan qayb waa nala joogay saan sheegay oo markaan ka shaqeynayna hanaanka maxaan ku dhahaa qaab dhismeedka amniga waa joogay madaxweynaha markaan garsoorka iyo cadaaladda ka shaqeynayna waa joogay laakiin intii dambe madaxweynuhu nooma imaan waxaan marka aniga aaminsanahay Puntland markaan ka hadlayno kama hadlayno what's the problem horta marka koowaad laba arrimood baa loo kala qaadaya Puntland waa state dhismay dowladda federaalka ka hor waa state ka qayb qaatay dhismaha dowladda federaalka markay sidaas tahay marka baybigi yaraa inuu soo koro oo uu asaga yiraahdo anaa imika wax hogaaminayay dabeeciyan waa arrin u baahan in la iswaafajiyo marka koowaad arrintaas dowladda federaalka kamay soo qabsan Puntland oo kaliya arrintaas waa maasantiin arrintaas waxaan rabaa arrintaas dowladda federaalka Puntland kaliya kamay qabsan waxay hor fadhiyaa civil society ka qabsatay civil weynaa Soomaaliya dowladdu way yarayd markay isdamar marayeen anigu civil society ka tirsanaa isdamar markii wayna dhiftay markii private-ka business-ka iyo tacliimta iyo wax walba private taban iyo state-ka dowladda markii dowladda federaalka istabamarkooda markii hore zero bay ahayd kuwaas sareeyay markii dowladdu ay soo kacayso waxay u baahan yihiin dib u heshiisiin in la isla socodsiiyo way dhacday waa la isla socodsiiyo marka arrintaasi waa arrin iska dabiici ah oo aan dhib badnayn oo iska caadi ah inay Puntland ay mar walba ay questions qabto oo ay dhahdo xogaa maaragtay anagu sanigi weynayn taas waa iska caadi taa waa la xalin karaa dhibkeeda waana arrin jirta waana arrin u baahan in si caqliyeysan oo run sheeg adde oo Soomaalidu korkay wax ka tataabataa caadi ah in la isugu tago taas waa qodob arrinta kale laakiin hadda jirta ee dowladdan xukuumaddan iyo Puntland kala haysata ma aha arrin la xiriirta dowladda federaalka ma aha arrin la xiriirta shacabka Puntland ee sharafta leh iyo hay-adahooda in badan oo kamid ah ee dastuuriga ma aha cid kale la xiriirta waa arrin ku wareegsan hal qof arrintaas marka halkaas qof
ayay ku xiran tahay Puntland iyo dawladda federaalka waxa u dhaxeeya inuu yiraahdo way dhamaatay iyo wayna dhamaanin iyo inuu yiraahdo waa la iskhilaafsan yahay ma iskhilaafsana la isma khilaafsana in la yiraahdo inta un bay ku eg tahay waxaanan filayaa mararka qaarkood saad statementska qaarkood aad ugu wareerayso ayaa haddaad maxaa u dhaxeeya Puntland iyo dawladda federaalka maqtan hadda la jooga haddaad isweydiisana aad mararka qaarkood dadku confusion ugu qaadeen ugu wareerayaan for example dawladda waxaad maqashay oo kulligiin wada maqasheen cunaqabataynta hubka cunaqabataynta deynta yaan la cafin dalka yaan deynta laga cafin soo lama maqal okay cunaqabataynta hubka yaan la qaadin soo lama maqal dawlad goboleedyo kale ma jiraan soo lama maqal samabaya anaa iska leh okay dawladda federaalkii ma aqoonsanin madaxweynihii hore rejiimkii hore Soomaaliyaan maqal Ethiopia dal Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed bay rabtaa waxba kama jiraan Soomaaliyaan maqal marka taa fahamtaana tan kale na fahmiisaan asmaqalno rajul wasaare waa mahadsan tahay si fiican oo dheer ayaa arinta dastuurka iyo electionka ba u dul istaagtay waxaa tiri Puntland waa haddaan ya raacay su'aal raacaysa taas steedyada kale oo imika ku jira baby stepski ay dawladda federaalka markii hore ku jirtay iyaga naftooda June waxay ahayd in doorashooyinka qabtaan Novemberna in doorasho la galo dadkan dhalinyaradan waxaa tiri sanadkan waa sanadkiini qof dambe oo maxaa ahayd nii cubtamay idinka ma jiro marka June maadaama la dhaafay Novemberna hadda ay nahayso adiga waxaan garanayaa reer Muqdisho tahay waqtiga uu adkaa Muqdisho idil waa ku soo nooleed dagaalada idil waa joogtay arday baa ka ahayd waa ku soo kortay dadkan reer Muqdisho hamuun bay waxay u qabaan iyaga naftooda inay doorasho dawladdan halkan ay degan tahay oo awoodooda waa haysataa marka sidee la isku qabadsiinaya waqtiga doorashada oo deegaanada hoose dawladaha hoosena in la dhaafay doorasho one noo socdo marka dadka alinta sida u qancaan oo hamuunta u qabtay in codkooda wax ku soo baxaan taa hadda dul istaagtid waxaan ogahay inayna horta duruuf muayana dalkeenu inuu ku nool yahay waa ognahay oo duruuf amni duruuf dhaqaale intaba leh ayaan ku noolahay haddaan nidhi war dadka Soomaaliyeed mar dambe one person one vote elections bay u baahan yihiin uma baahnaa siyaabihii isma juujuqiska ahaa uma baahnaa haddaan nidhi mar waxaa noo soo baxday dhowr arrimood kow waxaa noo soo baxday horta dal baynu nahay hal dal ah ayaa nahay dalal badan iyo dawlado ma nihin fara badan waxaa jirtay marka culaysyo ka imanayay marar fara badan ka imanayay dhinaca doorashooyinka waxaan isku daynay annagu inaan horta doorashooyinka midayno dawlad goboleedyada yani dalkoo dhan baan rabnaa in dhowaan uu midoobo laakiin waxaan dhahnay horta bal one step forward horta aan hadda ku bilowno in dawlad goboleedyada doorashooyinkooda la mideeyo midayntaas dalka doorashooyinkooda la mideeyey waxaa ku xiga tallaabada ku xigta inay tahay inaan dhahno war noocii hore nin waliba wuxuu rabo iska soo qoranayay ka daaya dadka lagu celiya awoodda aan dadka aan siin awoodda dabcan waxbaan isku taalac naazilinay oo consensus ah oo aan dhahnay waxa waaye laba arrimood ba annagoo middaas siyaasadeed iyo mid amni oo ah dagaalkii aan ku jirnay oo aan kula jirnay khawaarijta yani haddaan ku mashquulno doorashooyin waxaan gelaynaa arrin adag baa inagu dhacaysa iskumana karno marka saa darteed doorashooyinkana ha la mideeyo hana la hakiyo oo wax ogaa fursad aan siino inaan dagaalka ka soo jeedsanayno oo aan nimankan ka soo jeedsanayno la dagaalankooda marka halkii unbay haddana naga taagan tahay waxaan leenahay dabcan waxaan uga mahad celinayaa madaxda dowlad goboleedyadu inay naga aqbaleen
oo ay in badan ayaguna hadleen sheegeen ay baarlamaanadooda u sheegeen meeshay ka yimaadeen iyo deegaanadii ay madaxda ka hayeen u sheegeen oo ay dhaheen annaga ma rabno in aan annagu wax iska soo qorqoranee waxaan rabnaa inaan doorasho galno waanad maqlayseen marka tii baan haddana anagu aan ku taagannahay waxaan ku taagannahay doorashadaas inay dhacdo oo ay dadku ay doorasho galaan waxa soo haray maxay tahay muxuu yahay badiilka soo haray badiilka soo haray de waa in aan dhahno nin walba dawlad goboleed joogo adigu isa soo dooro soo saas maaha macnaha waxaa waaye constitutionally dadka qaarkood waxay dhaheen wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ee federaalka waa inay doorasho samaysaa constitutionku saas ma sheegayo shaqo kuma laha wasaaraddu constitutionadooda ayaa siday imika yihiin ayaa lagu dooranayaa marka haddii uu constitutionkiisa haysto haddii uu madaxweynahaas aagiisa uu haysto haddaad u xirto aagood dhahdo hawshaadii hadda iska wada way sahlan tahay berri asagiibaa sidiisa caadiga meeshii uu soo baxaya annana waxaan doonaynay inay dadku iyo ayaguba aan isla qaadanay inaan taa ka dayno oo dadkeennu ay iyagu qofkay rabaan ay doortaan marka weli tii baan ku taagannahay waxaan isla gaadhnay oo xukuumadda lagu encourage gareeyey meetingkii ugu dambeeyey inay dhammayso ay adabti garayso wax alla wixii shuruuc ah ee loo baahnaa oo ahaa sharciga guddiga doorashooyinka oo aan isku darnay dabcan oo la isku daray oo hadda guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha hal guddi isla yihiin actigaas waan samaynay sharcigii doorashooyinka asagana waan samaynay waan baas garaynay haddaan xukuumadda nahay iyo sharcigii axsaabta siyaasadda oo asagana aan baas garaynay haddaan nahay xukuumadda oo haddaba saddexdooduba ay baarlamaanka la yaalaan annaga marka waxaan filaynaa in baarlamaankuna uu asixiyo kadibna axzaab la samaysto oo dadku ay isu imaadaan oo wax la isugu daro oo dadkii beelaha ahaa ee kala duwanaa ee shidadii wax aan weyn ku jiray dadku inay siyaasad isugu yimaadaan oo wax isku yeeshaan oo ay axzaab noqdaan waa qodob in dadka codka la weydiisto oo dadka Soomaaliyeed ayagu ay codka bixiyaan oo qofkay rabaan ayagu doortaanna taasna waxa waaye oo dadka awoodooda loo celiyana ayadana waa qodobka kale marka waxaan filayaa wax la isku khilaafo meesha ma yaalaan dadku shaki bay qabaan waxay yiraahdaan waxaan ma soconayaa annagu waxaan leenahay committed ku nahay inuu soconayo wuu socon karaa diyaar baan u nahay inuu socdo waana socodsiinaynaa marka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed soo jeedinayaa inay taageeraan nagalana shaqeeyaan inaan awoodda ayagu soo celino oo ugu horeeyaan kuwa caasimadda degan awoodda in loo celiyo ay maayirkooda doortaan oo gudoomiyahooda doortaan oo ay ayagu xaqooda samaystaan waxaan ka shaqeynayna waa midaas mahadsanid ra-iisul wasaare waa ka gudbaynaa marka taas oo waxaan u gudbaynaa ra-iisul wasaare waxaa jirtay inuu jiro sida aan ku hayno statistikada u dambeysay xukuumadda soo saartay inuu koror dhaqaale jiro sidaas oo ay tahay waxaa jira dowladda waxaa kaloo soo rogtay canshuuro oo ugu horeeyaan canshuuraha iibka markii soo rogtay canshuurahaas waxaa soo baxay dhawaaqyo kala duwan oo canshuuraha ka imanayay iyo dad badan oo isla markaa ka cabanayay dhaqaale xumi inay soo wajahayso ay ugu horeeyaan ganacsatada ka cabanaya canshuurahaas dad baa waxay marka leeyihiin canshuuraha marka hore waxay ahayd inay soo raacayaan shuruucdii baarlamaanka ay soo mariyeen baarlamaanka ay soo maraan kadibna la soo rogo marka ma tahay steps saxda ah in loo qaado canshuuraha ma qaadeen tilaabooyin ganacsatada naftooda ka rogaysa culayska ay ka sheegeen canshuurta horta arrimaha sharcigu horaa loo mariyey budgetkii bay ku jirtay PFM ku jirtaa cidda sharciga iskale see loo marinayaa budgetkii ku jirtay baarlamaankaa faray wasaaradda maaliyadda in arrintaas maxaan ku dhahaa tallaabadaas la qaado madaxweynaha saxeexay yani sharciga waa soo dhammaystirmay wax sharciyad ah oo ka dhiman ma jirto canshuurta taas waa qodobka labaad waxaan ka soo horjeedaa erayga oranaya ganacsata canshuur diiday may diidan canshuur maba ay diidan ganacsadeenu canshuur ma arkin aniga qof ganacsada ah oo la canshuur bixin maayo ma arkin laakiin culaysyo kale sheegteen oo aan canshuurta dawladda ahayn miday diideen taas weeye miday ka cabaadeen taas weeye wax soo jireen ah oo sii jiri jiray oo iyo wax hadda ku biiray
oo aan ahayn oo aan wasaaradda maaliyaddu aynan qaadin oo siyaabo kale dadku culaysi ay uga tirsadeen ma ganacsatadeennu ayay ka calcaleen marka laakiin canshuurta may diidin hal sana laga soo shaqaynayay waa lala soo fadhiistay waa lala soo tashtay weligoodna canshuur ma diidin ganacsatadeennu canshuurta iibkana kulligiin waa wada ogtihiine dunida meel inaga hooseysa ma aragteen ma garanayo meel inaga hooseysa waa kulligiin wada aqoon-yahanaa meesha fadhiya way wada ogyihiin canshuurta meesha tahay meesha ugu yar dadkeennu ay la isyiri way bixin karaan ayaa laga dhigay oo laga sameeyey talo dheerna waa laga gaaray ayaguna way diyaarsanaayeen waxa ay diideen intaan bay ahayd haddii ay ahaayeen dhallinyaradii bajaajleyda ayaguna ka sheegtay iyo haddii ay ahayd ganacsatada dekedda wax uga soo degaan labaduba culaysay sheegteen labadaba immediately waa ka xalinay waxaan u malaynayaa xalay inaad aragteen qaraaradii iyo wixii aan kaga xalinay tigoo bajaajlaydana way kasii horreysay oo ayagana waa ka xalinay marka wax dhiba meesha kama taagno waa waqtigii su-aalaha waa furi doonaa nidaamkan ku raacaynaa marka waqtiga kuu timaada ku siinayna ra-iisul wasaare waxaa jirto waa la soo xarayn karaa waxaa codsanaya in la soo xareeyo gabadha saaxiibkeedii walaalka asmaqalna marka ra-iisul wasaare sidaa arkaysid dhalintii caawa halkan fadhida marka waa luuqadii ciyaalka xaafadda xitaa way kugula hadlayaan hala soo daay marka ra-iisul waa ka gudbaynaa waxaan u gudbaynaa ra-iisul wasaare arrimaha amniga sidaa markii dhaweyd sheegaysa waxaa tiri inta ugu horreysa waxaan ku mashquulnay dagaalkii aan kula jirnay kooxda al-shabaab ra-iisul wasaare muddo hadda dagaalkaasi halka uu ku dambeeyey macnaha waxaa la qaaday deegaano fara badan ayaa dowladda ay xoreysay sidaan ognahay deegaamo badan oo dadka soomaaliyeed muddaday kala xirxirnaa ayaa la bartay degmooyin badan ay dadka barteen tuulooyin badan oo weynaaday dadku barteen balse mar qura dhaqaaqi iyo ciidanka xoogga ku jireen wuu joogsaday maxaa u sababa arrinta aad baa umahadsantahay arrinta amniga waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed la wadaago waxa la yidhaahdo facts and figures waxyaabaha badan baa la iska sheegaa ciidamada qalabka sileed Soomaaliyeed waxay qaadeen 978 howlgal bay qaadeen waxay xoreeyeen 215 goobood oo isugu jira degmooyin tuulooyin iyo meelo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed oo ay nimankii ay joogeen ay xoreeyeen waxay dileen in ka badan 5,000 oo khawaarij ah ay dileen dagaalku wuxuu anagu dagaalkan qaadnay wuxuu ka koobnaa dagaal saddex triangle ama saddex xagal ah oo mid military ah oo kaasaan idin sheegay ah iyo mid maaliyadda dhinaca maaliyadda laga qaaday oo laga curyaaminayay iyo mid fikri ah marka kaas waa kii dhinaca military midka maaliyadda waxaanu aad ogeydeen nimankaasi accounts bay iska furnaayeen 722 account ayaa laga xiray waxaa laga xiray asagana 1551 mobile oo ay lacagaha ku dirsan jireen waa laga xiray waxaan curyaaminay dhaqaalahooda 40% ayaa dhaqaalahooda curyaamay taasna waa dhinaca maaliyadda dhinaca fikirka waxaad ogeydeen nimankan fikirkooda iyo sunta ay leeyihiin baraha bulshada marsadaan baraha 10231 bar internet oo ay wax marsan jireen aan ka xidhnay waa nimanka ka xidhnay
waxaan isugu yeedhnay culimmada Soomaaliyeed oo tayaar kasta leh ayaan isugu yeedhnay waxaanan hor dhignay nimankaas iyo dhibkooda culimmada Soomaaliyeed waxay soo saareen ayagoo midaysan fatwo ay shacabka Soomaaliyeed ugu sheegayaan inay yihiin khawaarij ayna waajib tahay in lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo marka fikirkiina taasaan anagu ayaan ula dagaalanay natiijo dhalatay markii inta la sameeyay natiijo dhalatay waxa weeye waxaa 1769 kamid ah ayaga ayaa soo dhiibay horta markii koobaad waxaa hoos u dhacay qaraxyadii ay sameyn jireen ay boqolaalka qof ku dhiman jireen 73 waxaa hoos u dhacay assassination kay sameyn jireen iyo duulaanka qaadi jireen iyo dhibaatadii sameyn jireen boqolkiiba oo kale on qaraxyada ahayn 39 ayaa hoos u dhacay waxay ciidamadeenu dabcan ay la wareegeen 700 oo askari 7000 oo askari afwan 7000 oo askari oo atmis ah meesha ay ka baxeen oo ah 22 fadhiisin iyo 4 qaybood oo ay ku lahaayeen saldhigyo 7000 ee askari ee baxday ciidamadeen ayaa bedelay waxaan xusuusanayaa sanadkii hore maaha 2 sano ka hor halkanaan soo istaagay iyadoo shacab Soomaaliyeed oo fara badan waliba dad aan isku jaamacad ahayn aan halkan ku kulannay waxaan u sheegay inaanan ku faraxsanayn in amnigayga uu sugo askari ajnabi ah waxaan u istaagay inaan ku faana caawa in ay iwaardeynayaan ama ay amnigayga sugayaan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed mahadsanid Ra'iisul Wasaare waxaan doonaynaa inaan tan su'aashan ku soo dhameynaa dhankayaga waxay ku saabsan tahay arinta MOU-da ay wada saxiixdeen Somaliland iyo Ethiopia waxaa jiray isbuucii hore Ankara waxaa ka dhacay wada hadallo u dhaxeeyay dawladayada iyo Ethiopia oo garwadeen ka ahayd dawladda Turkey kaasoo ku soo dhamaaday in mar saddexaad haddana la isku yimaado ma kula tahay in Ethiopia ay sheegashadeedii iyo wada hadalladan ay tahay niyad sami in lahayn kaliya ay doonayso inay waqti naga dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed kala miso su'aashan waxa ay raacaysaa mudane Ra'iisul Wasaare arinta dhaxtaalka u ah arinta waxa weeyaan waa arinta Somaliland arinteedii maamuladii waddanka iska laga soo bilaabo markii 91kii la hadda xal dhamaada lagama keenin marka ma aaminsan tahay in arinta MOU-da ay tahay arin jidri ah aynan dhinaca balse arinta dhaadhaceeda inay tahay in arinta Somaliland la xalliyo arinta Ethiopia damaca guracana Ethiopia nasiib daro anagu waxaan doonaynay ay dawladda Soomaaliyeed diyaar u ahayd haddana ay diyaar u tahay in gobolkan oo dhibaatooyin fara badan ay haysteen oo ognahay South Sudan problem ka jira Sudan problem ka jira Yemen oo inagu dhow dariskana problem ka jira inaga iyo waxa in haystay iyo argixisada iyo dhibaatada inagu hayso gobolkan sidiisaba gobol fluctuation ku jira oo aan deganayn maadaama yahay waxaanu anagu runtii aad u jeclayn in aan anaga iyo dawladaha dariska ah inaanu ku wada noolaano hab aanu iska kaashano dhinaca kala faa'iideysiga iyo kala ganacsiga iyo dhaqaalaha inaanu ka wada shaqeysano oo aan kala faa'iideysano amnigana aan ka wada shaqeysano aan ka wada shaqeyno amniga wada sugno hoggaanka Ethiopia ama Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia runtii oo dhibaato badan ka haysto dalkiisa gudihiisa mushkilad aad u muuqatay inuu nagu soo raray mushkiladii oo dhinaca Soomaaliya soo raray ayuu si cad wuxuu u sheegay in uu inay bad Soomaaliyeed nin Soomaaliyeed oo aan xaq u lahayn inuu siin karo oo ay heshiis kula galeen ama MOU ay kula galeen arintaas waxaad ogtihiin markii MOU-gaas la saxiixay ka hor maalin ka hor dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha dalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muuse Biixi waxay wada joogeen Djibouti
waxaana dib u wada bilownay wada hadalkii si aan walaalaheen finally u qancino inay midnimadii Soomaaliyeedna qayb ka noqdaan waxa ay tabanayaanna loo xaliyo nasiib daro ninkii halkaas ka baxay waxaanu la maqlay arintaas dhibka ah ama riyadaas Ethiopia dawladda Soomaaliyeed waad ogtihiin one day ayay qaraar adag ka soo saartay xukuumaddu sii maray baarlamaanka sii maray madaxweynuhu inuu saxiixo arintaas inaan waxba ka jirin la diiday shacabka Soomaaliyeed baa diiday waxa dadka diiday kamida dadka reer Burco dadka reer Hargeysa dadka reer Berbera dadka maxaan ku dhahay reer Boorama dhammaantood way ka kaceen way diideen arintaasi Soomaalina ma aqbalayso anaga de waxaanu galnay talaabooyin adag oo diblomaasiyadeed baan qaadnay Ethiopia banaan cidla runtii caalamka soo istaajinay waxay bilaabeen inay marba dawlad ayagu aadaan Kenya aadeen waa ugu tagnay aan waa ka wada hadalnay waan soo tashanaynaa bay dhaheen waxay aadeen Qatar waxay aadeen maxaan ku dhahaa Saudi waxay aadeen Turkey haddana ugu dambeystii Turkey bay tageen waad ogtiin wada hadalkii Turkey waxay naga codsadeen inaan nimankaas oo ayagu codsaday inaan anagu la kulanno de qofku hadduu maradaada kugu qabsado waa laga garbaxa baa leeyahay bal inaanu anagu taas ku dayno oo ka garbaxno nimankii nimankaasi marka waxay soo istaageen waxaan suurtagal ahayn oo dadka Soomaaliyeed aan u cunamayn oo dawladda Soomaaliyeed aan u cunamaynin oo aabayaalkeen aan u cunamin awiyaalkeen aan u cunamin anagana aan u cunamin kuwan aan dhalay iyo kuwa si dhalaynayna yeelin oo ah waxa waaye wixii MOU ku yaalay inay ku dhagaan oo ay dhahaan maxaan ku dhahaa anagu hanoo sharciyeeyo mar walba anagu waxaan leenahay waana meeshaas misleading fara badan ay ka sameeyaan waliba dad fara badan oo siyaasiyiin oo u badan walaalaheena dawladda ama Somaliland anagu waxaan dhahnaa mar walba war anagu badaan dheerarka badan baan leenahay ilaahay baan nasiiyay dawladda Ethiopia waa landlocked dad aan bad lahayn oo 120 milyan oo meeshan fadhiyo way tayib waxaan ogolahay inaan kala faa'iideysano annaga dekedaha iyaga inay wax uga soo degaan inay adeegsadaan diyaar baan u nahay siday Uganda u adeegsato Mombasa ayaguna imikaba ay Berbera u adeegsadaan oo Djibouti u adeegsadaan waxaan rabnaa inay dekedaha iyaga adeegsadaan laakiin adeegsigaasi ay adeegsanayaan ee wax uga soo degayaan waa inay waafaqsan tahay habka caalamiga ah ee lagu kala gacsado ee wadamada aan badda lahayn aan badaha lahayn loola dhil gareeyo taas kaliya aan ogolnahay marka niman baa waxay yiraahdaan waxay rabaan oo kaliya inay naga kacsadaan oo idinka annaga saxiixayna adigu ho saxiixina maya annagu badeena in la askareeyo oo ay military degaanna ma ogolin in la kireeyo oo dhulalkeena la kireystana ma ogolin in nin heshiis lagula gala kalena ma ogolin waxaan ogolahay oo kaliya waxa weeye ganacsi sharci ah oo sida adduunka oo kala ah oo sida Uganda ay ula ganacsataan ku sheegay 16 gobol ee dawladood ee Afrika ee lahayn badaha say bada u raadsadaan daladaha wadamada badaha ay ula ganacsadaan in ula ganacsadaan ogolahay laakiin si ana haya maanta waan ka tabaroonahay ama waad iskhilaafsantihiin oo kanaan ka faa'iideysanaya waxaas ma aqbalayn wadankan kama ogolaanayno nidaamkii Andalus iyo mamaaligtii ee midba mar uu siibayay dadka uu siinayay oo ay reer Yurub siinayay uu siinayay kama aqbalaan lagama aqbalayo shacabka Soomaalina kama yeelayaan midnimada dadka Soomaaliyeed iyo dalkooda iyo gobnimadooda iyo waa lama taabtaan intaas aan ku taaganahay mana yeelayno mana aqbalayno walina anagu waxaan rabnaa inay si nabada nimankaas aan dariska nahay inaan ku heshiino waxaan rabnaa anagu waxba kama haysanee ayaga dulmiga inay joojiyaan oo deedna aan daris wanaag iyo nabad iyo inaan dhaqaalaheena u kobco oo kala faa'iideysano oo ayagana waxbay ku fiicayeen anaga waxbaan ku fiicannahay aan kala faa'iideysana ayaan ugu yeeranaa intaas rabnaa رئيس الوزراء سؤالي عنك إسدافسني إنه هذا الكيجا
intaanan uga gudbayaa inaan su-aalaha u furo publica marka inaad gacmaha dejisaan marka waxaan rabaa siday su-aalaha u dhacayaan inaan nii sheego waxaan doonayaa su-aasha qofka aan aniga siiyo qofkaasaan nii qaaday marka cadaaladdeeda caawa ku qaatay waxaan rabaa marka idinkoo tartiib u fadhiya qofka anaa arkayo meel yaraan wada fadhinaa qofka aniga u tilmaamaan siinayaa macruuf waxaad siinaysaa tahliil eeg dhegeyst maya بسم الله الرحمن الرحيم ugu horey waxaan salaam alaykum wasaaraha waxaan ugu mahadcelinayaa sidii ugu mahadceliyeenba minbar waqtigiisa qaaliga ah iyo ogolaanshaha uu ogolaaday inuu dadka soo dhex fadhiiso su-aalana la weydiiyo arrinta wasaar waxaan rabaa inaan su-aalahayga aan iyagoo saddex ka kooban hal su-aal aan ka dhigo haddii alla yidhaahdo marka ugu horeyso waxaan rabaa su-aasha la xiriirta arrimahan cashuuraha oo aada moodid sidaad sheegtay cashuuruhu dadku ma diidana laakiin nidaamka lagu qaadayo oo aada u qaldan ayay dadku waxay moodaa inay aada u diidan yihiin sida in shirkado aanan tartan la gelsiin oo aan meel loo marin in intii la siiyey ay iyagu qaadayaan cashuurtii see doonaanna ay u qaadayaan waxaan aada usoo dhaweyneynaa tallaabooyinkii aad ka qaadeen oo aad kaga jawaabteen waxyaabihii qalqaldanaa laakiin waxaa moodaa weli dowladdu marka ay soo saaraysa arrintan inaysan diyaargarow badan iska muuqan markaad fiirisid hadda go-aanka xal aad soo saarteen oo ahaa in qasnada dhexe ay ku dhacdo wixii dhaqaale soo aruurinayo haddana qaabka loo aruurinayo waxaa moodaa inay shirkado aruurinayaan sida isku waafaqayaan arrintaas waxaan rabi lahayn inaan faahfaahin aan ka ogaano tan daba raacsiisanaya waxay tahay arrimaha amniga oo qoseeya arrimaha amniga ra-iisul wasaare waxaad labadii sano dowladda joogtay ee heshiis amni iyo iskaashi ciidan la gashay dhowr wadan oo kala duwan etoobiya turkiga masar hadda u dambeyso waxaasoo heshiis ah waxaan ogsoonahay inaana mid ka mid aana baarlamaanka la geen loogana hadlin sidee dowladda isu waafaji doontaa heshiisyadan faraha badan oo amniga la xiriira iyo iskaashiga ciidamada ee la gashay dhowrkan wadan oo kala duwan su-aasha intaas kusoo koobi lahaa aada umahadsan saddex su-aalood aan qaadanaynaa waxaan siinayaa ninka waan imaanaya kaa ka dambe qofka ka dambeeya بسم الله الرحمن الرحيم مركو ريوا سلام يا منبر ان رئيس جمهورية فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد بره شرف انو تahay ka dhalinyarada Soomaaliyeed in halkan caawa ku qaabisho waqtiga qaaliga aan noo soo horto minbar oo runtii ayadana barnaamijkan fursad noo siisay in soo apply gareey anigoo naafaane sharaf ay tahay magacaygu waa Dalmar Cadow Maalin waxaa qabaa laba su'aal laakiin waa soo koobi doonaa ra'iisul wasaare anaga ka dhalinyarada naafadu lix tiir ee aan soo bandhigtay anaga ka dooda ka qabnaa waxa ka qabnaa oo aan cadaaladda iyo arrimaha bulshada sanad walba ama bil walba waxa laga yaabaa in la shaqaaleysiiyo dhalinyaro Soomaaliyeed naafadu wax ku barata dalkeena wax meelin aniga shahaadada waatana jaamacada ka baxay 22 dalkan caqabad ku jirta aq wax bartay hooyo aabo oo iga dhintan Allah u naxariistay igu dadaaleen meel walba tagnay dadka ma dawarsanayna anagoo dhalinyaro naafa ah mase wadankaas ka taariibna mase caaw shaqaana siisaa horta koow حقيقية رنتي
markaan meel tagno waxaana lahaa naafaatiin wax maydin qaban karno dowladdii adigaa wasaare ka ah waxaa dhahday marka aad xilkaa ku wari aan dhahdo waxaa dhahday siyaasaddu jannaa ku galaa dhahday jannada siyaasaddaa ku raadinaysa marka soo koobayna tan xigto aa u dhaadhacaya dastuurka waaye dastuurka annaga manala qaybgelin haddaanu nahay dhalinyarada naafada soomaaliyeed beri musharaxaa naqa rabaa xisbiyaa raasan rabaa intee wax ka raasanaa marka macruuf macruuf waxaa siisaa gabadhaas muraayadda wadata gabadhaas xagga adiga بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وامل شريف حسن وحان هاي أرضيات وحان نكتا جامعة جرين هوب وحان روا مقعي وامل شريف حسن وحان روا رئيس الوزراء إنه ويدي ما دام وراي وحان آدينا دور شقة في عدة هذا أنا أجرته يعني عنشورة إيبك محادول دقة عنشورة إيبك قولك بنادر وكلية أيقون وأقنا هاي عنشورة لا يقعد قولك بنادر اللي هو مصروفه قبل هذا ذلك مسك مترس يعني كمترس ميا دولة gobolada kale waxay ka admisaa maasanta rajul wasaare saddex su'aalood qaadanayna saas aad baad mahadsantihiin walaalkay shaatax gudoomiye shaatax uu mahadsan yahay haddii aad u fiirsatay go'aamada aan soo saarnay bayskoodu waxaa weeye canshuurta waa inay wasaaradda maaliyaddu jaangoyso ogolaato authorize garayso qasnada dowladdana lacagta ku dhacdo haddii ay dhacdo shirkado intaas ka baxsan oo wax sharci darraha ku shaqeeya waan dee sharciga la marsiina laakiin annagu wixii ay ka calacaleen oo dhan oo 9 qodob ayay ahayd intay soo jeediyeen ganacsatadu oo ay ka sheeganayeen oo ay ugu dambeysay in 2 canshuur la qaadayo oo mid marka laga soo qaado xagga baabuurka haddana ex control mid kale lagu qaaday dhammaan waxaasoo dhan wax xaqnay waxaan dhahnay waxba kama jiraan heshiisyaan burinay oo aan dhahnay waxba kama jiraan oo shirkada lala galay waxaan filayaa haddaad dib u akhriso warkaasi waa cad yahay arrinta ku saabsan baarlamaanka lama marin heshiisyada qaarkood heshiisyada waa marinay muhiimka ahaa sida turkiga oo kale waa marinay baarlamaanka maxaan ku dhahaa heshiisyadii waaweynaa heshiisyada qaarna waa heshiisyo ay wasaarad la gasho oo ka fudud midka ajendaha nationalka wata midna waa mid ajenda national wata wax alla wixii uu nagu waajibiyey dastuurku inaan geyno baarlamaanka waa waxaan geynay iyo waxaan usii wadno waay marka heshiisyo gaar oo qarsoodi ah oo aan dowlad la galayno ma jiraan walaalkay dalmar uu mahadsan yahay waan uga mahad celinayaa inuu yimid meeshaan inta timid unbuuna la mid yahay wax uu kaga bedelan yahay ma jirto dhallinyarada timid buu la mid yahay marka wuu mahadsan yahay naafa ha ahaado laakiin naafanimadiisu ma keenayso inuusan imaanin ma keenayso iyagoo naafaha ayay madax ahaayeen madaxna yihiin waxaan rabaa inaan sheego dee inagu dalkaynu ka hadlayno dalmarow waynu naqaanaa tabarteenna waa naqaanaa awooddeenna waa naqaanaa been baan kuu sheegayaa haddaan ku idhaahdo wax walbaba overnight baa yaa lagu shaqaalaysiinayaa intaa la marayaa waxaan jirin inaan kuu sheega ma rabo inta shaqaalaysiinteennu ay korayso aad bay u yar tahay intaan shaqaalaysiinaa way yar tahay inkastoon dadaalay oo aan ilaa 6,000 oo macallin keennay oo aan tobannaan aan dhaho dee kumanaan dhalinyaro aan ciidamo u qorannay oo ay maxaan ku dhahaa dawladdu ay tababartay qalabayso mushaarkooda iyo garaamyadooda waxoo dhan siisay inkastoo aan ambitious nahay oon aragti dheer leenahay oon wax kale aan raadinayno aad u doonayno laakiin shaqaalaysiinta dhallinyaradeenna aad bay u yar tahay wayna kooban tahay
waxaana keenaya duruufteenna oo ay ta amniga ugu horeyso horey baan anigu dhalinyarada u sheego waxaan dhahay qofka dhalinyarada wuxuu u baahan yahay aqoon iyo shaqo marka waxaan u malaynayaa dhowr jeer oo dhalinyarada la hadlay waxaan ku yidhi shabaabka dalka igala xoreeya anigana shaqo i weydiiye marka haddii shabaab aan isdhaafino waxaan kuu hubaa adiga iyo inta la midka iyo kuwa kaleba in dalkeenu uu ka badan yahay shaqaalehena ka badan yihiin waxaanan xoogga saarnay runtii inaan dadka nugul Soomaaliyeed inaan wax ka qabanno arrinta IDPska oo aad ogtihiin inaan hawl weyn ka diyaarino oo aan rabno haddii ilaahdo sanadka insha Allah 2025-2026 ugu yaraan 1 milyan oo Soomaaliya oo ilaa Somaliland ay ku jirto ayaan ka saari doonaa haddii ilaahdo IDP iyo noloshooda ay ku nool yihiin oo nu bedeli doonaa noloshooda nolol caadi haddii ilaahdo idinka waxaan maalin hadda waxaan ansixinay sharciyadii taageerayay caruurta sharciyadii xuquuqda caruurta iyo da'yarta iyo kii ugu dambeeyay oo ah sharciga ama hindis sharciyeedka xuquuqda dadka naafada ah oo aan ansixinay oo baarlamaankuna ansixiyay oo haddeertan aan rajaynayo insha Allah in sharcigaasi uu fari doono xukuumadda iyo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeedba in naafada si gaar ah xuquuqdooda ay u helaan waxaan ka ballan qaadayaa in mar walba aad qadiyadiinu ay hortaalo mar walbana aan ka fakarayo waana ka fakaraa ilaahay idankiisna waxaan rajaynayaa dadka naafada ahi wixii shaqaala ee soo kordha inaan aan qayb aan ka siino haddii ilaahay yiraahdo waana ku ballan qaadi doonaa haddii ilaahay yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantahay walaashay gobolka Banaadir waxa waaye canshuurta iyo gobolka Banaadir طبعا culays badan buu hayaa dawladii Soomaaliyeed iyo qarankii Soomaaliyeed oo dhan ba dul degan dhibaatada ugu waaweyn haday qaraxeen noqotay hadii amni darro noqotay ba iyada oo dawladnimada Soomaaliyeed lagala dagaalamo caasimada ay tahay oo lagala dagaalamay cadow oo dhan ayaa runtii dadkeeda dhibaato fara badan ayuu soo gaaray dawladnimada dadka reer Muqdisho price bay u hureen way ku mahadsan yihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan ku sheegayaa hadii ay dawladii hore ahayd xataa xooga badneed ee militariga Muqdisho laga biili jiray dalka dadka oo dhan meesha bay degan yihiin hantidii ummadda Soomaaliyeedna halkan bay taalaa shacabka Soomaaliyeed 3 milyan over 3 milyan lagu tilmaamana halkan bay degan yihiin dawladii Soomaaliyeedna way degan yihiin oo aan dib u wadin barakaadkeeda kala wadatana ayadana waa degan tahay marka gobolka Banaadir culayskaas waa hayaa waan qirayaa laakiin micnaheedu ma aha in gobolka Banaadir kaliya canshuur laga qaado waa dawladda Soomaaliyeed gobolka Banaadir kuma eka dawlad goboleedyada jira dawladda Soomaaliyeed bay kamid yihiin canshuuray qaadaan amnigay sugaan dadkay shaqaaleysiiyaan infrastructures bay dhisaan dawladihii waaye marka waa inaad ogaato yani waxa waaye kuwa dawlad goboleedyada laga qaadana qasnada dawladda kuma soo dhacdo laakiin dad Soomaaliyeed iyo dawladii Soomaaliyeed qaybaheedii ayaa ayaguna amnigeedii iyo adeegeedii iyo maxaan ku dhahaa kaabayaashaadii dhaqaalaha lagaga shaqeeyay ma aha meelaha kale inay iska fafadhiyaan qudhoodu ma aha marka waxaan leeyahay isma diidayaan waxaan rajaynayaa oo aan anagu ku dadaalaynaa insha Allah in customiska la mideeyo iyo in ay canshuuruhu ay mid noqdaan oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay u sinaadaan wax walba waan rajaynaynaa insha Allah waan soo wadnaa waxaa siisaa ninkaas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو فرحسنا هنا ما أنت عاو أنجانس كويلو أستاذ حمزة. أنا برايم مينستر كدلك هورنا سكون قاني أمان ضدك مقالة حقاس كوجي قرنا هين أستاذ كعليسات كفرق بدنا مقالة كجرواج وشعب كها أد بودي دي جري خاصة ودوين كل حرو مرة خاركود وحنا دي جري عليسات مدتك كوها يعني مويه ودل الحرو هذا ما hal qof oo adeeganaya laga yaabo mool inuu ka adeeganayo in 30 kun ama 20 kun qofood oo wadadaas mari lahayd ama baahiyo gaar ah qaba wadada ka laabta la yiraahdo taas naftirkeeda inuu culaysaadkaas waxa ka qabtaa rajaynaynaa maadaama uu hore u soo arkay oo ninkii dalka joogay ahaa qorax joogta ahaa waliba dadka kale waa ka miisaan culus iyo dadka kale qurbee ka imaadeen oo baahiyada kale dadka kale lama wadaagi karaan halkaas waa la ku soo koobaya
aad uuna mahadsan yahay. waa mahadsantahay gabadhaas. السلام عليكم. waxaan salaamayaa ra-iisul wasaaraha xoogaa naxtina ay ugu jirto weliga meel saana kama hadlin. magacayga waa Faa'iisa. ra-iisul wasaaraha waxaa weydiinayaa su-aal ah ayaan hore qaraxa ka dhacay Liido ilaaha u naxariisto dadka ku dhintay inta dhaawacaan ilaahay ha bogsiyo. sidoo kale qarax ka horeeya jiro oo ka dhacay weerar gobolka Banaadir waxaa dad badan ku dhintay dad badan oo ay ku dhaawacmeen laakiin waxaa jirto wiilal oo la dagaalamay qawaariijta oo wiilna uu ku dhintay midna wuu ku dhaawacmay laakiin hadda uu caafimaad qaba. marka ayaan hore Liido dadkii ku dhaawacmay wiilal baa badbaadiyay ra-iisul wasaaraha xafiiskiisu ku soo dhaweeyay uu abaal mariyay laakiin wiilashii ka dagaaltamay gobolka Banaadir soo ma arkina ra-iisul wasaaraha wiilkii noolaay ma uusan abaal marin ka dhintane yacni caruurtiisii xaaskiisa jooga waxba ma dhihin muxuu ka leeyahay. waa mahadsantahay isdhegeysana halo. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Sakariya Saciid Jaamac. aan isdhegeysana. waxaan ka socdaa Somaliland. waa markii ugu horeysay aan Muqdisho imaanayo yaraanteedii ilaa imika aan de ninka weyn aad arkaysaan ahay waxay ahayd wax weyn hamigayga ahayd inaan Muqdisho imaado. xaqiiqatan waa farxad bay ii tahay inaan la kulmo ra-iisul wasaare Xamse. muqdisho marka la joogo Hargeysa yacni dhalinyarada amba dadka Somaliland jooga fikir qaldan bay ka aaminsan yihiin. imika intaan xalkaa fadhiyey intaasoo message baa soo dhacaya leeyahay iska ilaali qaraxyada iska ilaali meelaha ay madaxdu joogto. waad arkaysaan ra-iisul wasaare waxaan la joogaa ummadda Soomaaliyeed ra-iisul wasaare Xamse. anugu hal message baan gudbinayaa oo aan u gudbinayaa dhammaan dadka degan Somaliland. anu wax siyaasadda kama hadlayo waayo waan noqonayaa waxaan noqonayaa 2 cishaan joogaa ra-iisul wasaare saacado kooban baan Muqdisho joogaa. farxad bay ii tahay inaan kula kulmo. hal su-aal baan ku weydiinaya haddaba su-aasha ku weydiinaya waxa weeyaan Somaliland heshiis bay la soo gashay Ethiopia heshiiskay la soo gashay haddii uu fulo oo barnaamijkaas ama heshiiskaas hirgalo dowladda Soomaaliya maxaa iyada u qorshaa dagaal ma qaadi doonta. waayo maasantahay Zakariya waan salaamayaa. ustaadka aad buu mahadsan yahay walaalkay. waa arrinta ku saabsan jidadka la xirxiro runtii waa runtiis aniga intay la socotana way ogyihiin hadday yihiin amni iyo hadday yihiin protocol. jidka la xiro aad baan u dhibsadaa waan necbahay in jidka la xiro waxaan faraa jidka ha xirina laakiin ilaahay amarkii markaan dhaho jidka ha xirina haddana asagoo xirin baan arkaa. haddana anugu dadkaanan halkanan caawa fadhiyo waxaan jeclaan lahaa jidka inaan la xirin ma aaminsani inaan wax noqonayo. waxaan qabaa jidka oo la xiraay dhib weyn buu leeyahay mashaakil buu leeyahay dhaqaaluhu wuxuu dhimayaa. kuwaytuso waxay yidhaahdeen waxaan tegay New York marka New York oo waxaan arkay jidka la xiray oo uu maxaan ku dhahaa marka waxay yidhahdeen ra-iisul wasaare aduguna waxaad dhahdaa jidka ha xirin xamar kuwana waa kuwan hadda jidka waa xiran yahay Biden baa maraya marka waa la xiray jidkii xataa annagii baana laga xiray. marka jidka xiristiisu
dhib bay leedahay dhowr jeer aan tijaabiyey oo jid la xirin oo intaan ka soo baxay madaxtooyada waxaan tegay ex control waan dhaafay haddana waan sii maray ciidanku waa rafaadeen way ordaayeen naftaa ka baxday laakiin aniga waa ku raaxaysanayay inaan jidka la xirin oo baabuurta la shaqatay marka runtii ma jecli waan dhibsadaa waan kula qabaa wax iska kay bedelay ma jiro sidii baan u nacbaa jidka in la xiro taas waxaan rabaa inaan kuu sheego walaashay Faiza dadkii ku dhintay meeshaas Allah naxariisto amiin anagu waxaan un aad u soo muuqday oo aad idinku keenteen banaanka idinka keenay ileen internet waxaad ku keenteen ma ogtahay TikTok-yadii saddex wiil oo geesiyaal ah oo si sharaf leh oo runtii Soomaalinimo leh oo muslimnimo leh walaalahood intay ku soo noqdeen xilli adag oo fulay soo noqon intay soo noqdeen dadkoodii daldalaya oo qaadaya oo ku soo noqonaya oo qaadaya runtii mowqifkaas yani insaaniga ah Soomaaliga ah islaamiga ah ee quruxda badan ayaa waxay nagu kaliftay inaan dhahno wiilashaas hal keeno aan abaal marino aan shaqo siino aan hal ay keeno haddana maxaan ku dhahaa walaashay wiilasha ay sheegtay ka dhintay difaacay waan isla sheegnay laakiin waxaan hay'adihii iyo teamkii baan farnay inay hawshaas wax ka qabtaan waxaan rajaynayaa wax ka qabtaan kan noolla waxaan rajaynayaa in la ii keeno asagana sidoo kale soo Zakariya uu qumaya siyaasadda ka fogaada hadii kale liintu cabbi ku salaamaya Zakariya anigana halkan salaam waxaan u marinayaa dhalinyarada walaalahayga dhalinyaradeenna reer Soomaaliland meel kastoo joogaan waa salaan halkan waa u marinayaa adna waad naga gaarsiinaysaa sharaf bay noo tahay inaad walaalaha ahalkaagii dalkaagii caasimadaadii inaad fadhiso dhalinyaradaadii inaad la fadhiso karaamay noo tahay adigana qiimay ku tahay Soomaaliya iyo Muqdishona waa caasimadii Soomaaliyeed wayna soo dhawaysaa wayna jeceshahay dhammaan guud ahaan dadka Soomaaliyeed aad baad mahadsantihiin sorry I'm furious heshiiskii ogtirata sorry Zakariya markay timaado dhul Soomaaliyeed dawladdan iyo dadka Soomaaliyeed gorgortan kama galayaan wax kasta waa noo furan yahay oo lagu difaaci karo wax kasta waa maasanta marina waxaan rabaa inaan siiyo ninkaas xagga waa kaas ninkaas بسم الله habeen wanaagsan waxaan u mahadcelinayaa member programkan quruxda badan ee inoo suurageliyeen inaan ra'iisul wasaaraha dalka aan caaw kula kulanno mudane Xamse Cabdi Barre isagana waa u mahadcelinayaa inuu ajiibo inuu shacabkiisa hor yimaado siyaasiyiinta inta badan lagu yaqaano dhaqanka noocan oo kale ah in madalla sidan u furan oo kale inay shacabka hor yimaadaan oo ay dhahaan su'aalana weydii magaciigu waa Cabdinuur Maxamed Xasan wadaad reekaxda ah haddii su'aasha aan toos u guda galo su'aasha aan rabo ra'iisul wasaaraha inaan weydiiyo haddaad toos u guda galo mudan ra'iisul wasaare wasaaradda waxbarashada waxa ay samaysay dadaallo badan oo muuqda haddii aan lahayd inay qaataan macallimiin weliba tiro aad u badan iskuulaadkii dowladda oo la casriyey howlahaas oo dhan wasaaradda iyo xukuumadda si guud waa ugu ammaanaynaa su-aasheedu waxa ay tahay wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaan xukuumaddaba maxay ugu soo dhalan laadahay sida waxbarashada maadiga ay danta u saarayso waxbarashada diiniga in danta loo saaro oo loo leeyahay in wasaaradda waxbarashada ay qaadato macallimiin dugsi quraan dhigto oo iyada ay mushaarkooda siiso waxay ognahay waxbarashadeena waxa aasaas u ah dugsiga quraanka aasaas u ah dugsiyadeena siday u dayacan yihiin meelaha ay ku yaalaan waa laga warhayaa wasaaraddu waxay awoodaa inay system u diyaariso macallimiintaas yani fan loo sameeyo dugsiyaadka laga dhigo bilaash marka arrintaas adigana in wadaada ayade waxa ka rajaynaynaa inta aad bixin hawshaas in wax laga qabto gabadhaas xijaabka madow
السلام عليكم رئيس الوزراء واكو سلامي مقعيق السعيدة على دها وحن ربي إن سؤال شيء ذا عن قالوا waxaan u mahadcelinaa horta camay waxaan arkaya inuu isku dayo inuu gender balance ka su'aalaha noo kala qeybiyo marka su'aashayda ayaa waxay ku saleysan tahay arinta oo hadda wasaaradii oo haweenka in aad labadii aad ka qaaday ay rag ka dhigatay halkii meel aan ka muuqan lahayn oo ka caawi lahayn decisionskeedii ayaa ma siyaasad baa ku qabsatay maxaa jiro logicaaga iyo explain garay waa mahadsan tahay qofka ugu dambeeya waxaan siinayaa hadda waa ujeediin ra-iisul wasaaraha dhibaatada cadaaladda ka haysata qolkaa yar aniga dhibka ku habaaya magacaaga magacaygu waa abukaata cabdulla waa mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha magacaygu waa abukaata cabdulla cabdiraxmaan mudane ra-iisul wasaare ma la dhihi karaa su-aasheeda haddaad si toosa u galo ma la dhihi karaa mudane ra-iisul wasaare cunaqabateyn canshuurtan oo iibka su-aasheeda haddaad si toosa u galo qorshaha xukuumadda dan qaran waxaa ka mid ahaa isku filnaansho dhaqaale in la helaa qorshahaas maxaa ka qabsoomay xukuumadda dan qaran ma la dhihi karaa waxay culeys dhaqaale saartay bulshada ku nool gobolka banaadir oo keliya sida aan ognahay ganacsiga gobolka banaadir waxaa laga qaadaa canshuur xad dhaaf ah dekada oo keliya dhowr meelood canshuuro looga qaadaa sidoo kale ganacsigooda shatiga waa laga qaadaa haddana waxaa la soo rogay ganacsiga canshuurta ganacsiga iibka canshuurtaasi dadka ma diidano laakiin haddana waxyaabo oo bedel aan ma haystaan sida amniga wadooyin iyo maraan iyo maaragtay culeysyadaas dhaqaale oo maaragtay hadda waxyaabo suuqyada ganacsiga marka hore waxaa loo iibgey jiray gobollada dalka hadda laakiinse gobollada dalka waxay ugu imaanayaan sida burka bariiska xamar gobollada inta laga keeno kismaayo iyo xamar la keenaa marka mudane ra-iisul wasaare haddana sidoo kale canshuurta hadda waxaa la saaray waxbarashada caruur badan inay uga haraan maaragta dhaqaale xumo ay ku dhowdahay waxbarashada caafimaadka sidoo kale canshuurta waa la saaray waa maasanta abukaat kaaga qorshaysan kasta waxaan jeclaan lahaa intaana qofood markaa qofka wax ka xula su-aal cusub inuu weydiiyo su-aashaas waxaa weydiisay gabadhaasaa weydiisay marka waxaan kusoo noqona qofka ugu dambeeya prime minister su-aal waa mahadsan tahay walaalkay cabdinaasir aad buu mahadsan yahay waxaan tacliim waa tacliim ama waxa ugu sharaf badanna waa qur-aanka in la barto marka waan kula qabaa waana ka shaqaynaynaa inaan tacliimta ay si xooglan weliba uga shaqaynaynaa tacliimtu dhammaanteed waa tacliim waaye marka waana lagu soo dari doonaa haddii ilaa yidhaahdo hawshaasna waa lagu jiraa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta intuba waan si xooglan uga shaqayn doonaa haddii ilaa yidhaahdo dugsiyada qur-aanka iyo masaajidda waxay u baahan yihiin in la transform gareeyo noocay hadda inoogu shaqeeyaani nooc in anfacaya maaha wayna soo anficeen laakiin in horey loo mariyay u baahan yihiin marka waa untaab meelma waan soo soconnaa waan soo gurguuranaynaa mooye ma moogin si xooglan isha ugu haynaa arrintaas waana saad sheegto waadna ku mahadsan tahay dareenkaas walaashii siciido wasaaradda haweenka dee horta qoyska waan niriyo wadamo badanna sidaasay tahay oo waa la sheegaa oo wasaarat al-usra waa caadi waa wadamada adduunka way ka jiraa usra ama family marka la sheegana hooyada kow ka ah ayadaa hooyada iyo familkii unbaa la yar weynay hooyadii iyo ilmihii iyo oo isku jira waaye haddii loo baahan yahay gabdhaha wasaaradda wixii ay qaban jirtay way qabanayaan waxaan rajaynayaa wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenkuba gabdhay noqon doonaan ilaa idankiis marka inaan
keligeedna ma wasaaradda haddii la rabo gabadh wasiirro kaloo gabdhahana way jiraan marka wasaarad gabdhahana keligoodna mayna u shaqayn jirin wasaaraddu waxay u shaqaysaa bulshada oo dhan bay u shaqaysaa dhallaanka u shaqaysaa xuquuqda insaanka ka shaqaysaa gabdhahana way ka shaqaysaa marka gabdhuhu madaxay noo saaran yihiin siyaasaddana qayb xoog leh ka yihiin wasaaradda magaceedii in la hormariyeyna micnaheedu ma aha in gabdhaha loo diiday inay wasaaradda ay yeeshaan ma aha taas intaasaan ka dhihi lahaa cabdiqaadir cabdulaahi canshuurta iyo isku filaanshaha horta isku filaanshaha dhaqaale si dhib yar kuma yimaado laakiin inaan jidkii haynaan kuu sheegaya oo la isugu filaanshaha dhaqaalaha waxaan waa xukuumaddaani waxay hirgelisay oo ay suurtogelisay muddadii 2 sano ahayd ee lasoo dhaafay inay dakhliga gudaha ka soo xarooda ay 66 milyan ay kor u qaado oo ay ku darto macnaha 25% inay kor u qaado dakhligii gudaha inooga soo xaroonayay waxay awood u yeelatay in aysan mushaharaadka iyo kharashaadka dowladda intaba in canshuuraha dadkeena laga qaado lagu bixiyo ee aan gacmaha loo horsanin ajnabi ayay awooday marka waa tallaabo cusub oo hore haddana 1 bilyan inaan gaadhsiinay budgetkeenna horey baan usii soconnaa marka isku filaanshihii dhaqaale waan soo wadnaa isku filaansho dhaqaale aan wadno iyo canshuurta dee aan aad isuma qabanayso inaan canshuurta concern ka qabno concernka macnaha waxaa waaye canshuurta waan sheegay canshuur la qaado anigu oo 5% ka yar haddaad waddan ka soo hesho waad noo sheegi laakiin meeshii ugu yarayd ayaa canshuurta la qaadaa 5% kismaayo waan kugu diidanahay waxa ka yimaada halkan ka raqiisan waxaan ogahay dhobley kiishka raashinka ee taga ee kismaayo ka baxa ka xamarta ka baxa ee dhobley taga ka raqiisan sababtana waan ku sheegaa waa sababaa jira marka labaduba way ka maxaan ku dhahaa way ka raqiisan tahay marka warka macluumaadka oranaya kismaayo ka yimaada ka raqiisan dib ugu laabo anaa kismaayo ka yimid si fiican u garanaya marka taasna waa marka taasna intaasaan ku sheegayaa canshuurta meelo badan baa lagu qaadaa hadda iminka sheegtay waxaan u malaynayaa waa un sheegashooyinkii ay ganacsateedanu ka sheegteen taana waxaan u malaynayaa waan sheegnay wax xalinay waxaan rajaynayaa inayna soo laaban ilaa idinkiis mahadsan tahay ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay waxaan rabnaa intaanan wareegga ugu dambeeya aan rabno hal mar dad su-aalo gobollada nooga yimid inaan daawano سبيس عاب وقبنا كلنكا رئيس الوزراء حمزة عبد برة ما حد جعلان له إنا ويدي سيد سؤال أن قبون أن ويدي له رئيس الوزراء وحي تاي ما حكوا صابسن عشورتا عشور عصوا على صور وضد كل صور جدوينها إيه ومدة الصومالية ده ولي كنا مقدشوا عشور تاس أنا وحن قبلها إن لك لا صار أو ضد كان تمر تيار وحير كفا إذا وحي ددان in aanan hadda lagu la degdegin ama xataa hadii wax la saarayo aan isku mid looga dhigin shirkadaha waaweyn oo kale hadda waxa la yiri 5% qof walba laga qaadayo dadkuna ganacsiga uma wada silno dad qaar waxa waaye 50% ka faa'iidaan dadna waxa waaye shantaas ay raadinayaan marka su'aasheedu waxaan qabaa in canshuurtaas dib loogu laabto oo ra'iisul wasaaraha iyo ay dadka tabarta yar wax ku soo dhawo member space عاورز الوزراء حمزة عبد برة سؤال أجعلان له هنا ويديسو مقعد أدوك بلا بسم الله الرحمن الرحيم مقعد يقول عبد الرحمن محمد قول عبد الاسم قال لي هذا والسلامة رئيس الوزراء آد وشرف بدن واي وهالك رئيس الوزراء والدولة أو كب اللاوضي لا تاجر ما شاء الله رئيس الوزراء آد ومعتي هاي سؤال سوي دينا الصقا يمدحوينيش dowladda Soomaaliya ma ka raaliya joogitaanka ciidamada Itoobiya oo meesha aragtay sii maraya iyo isballaarintooda dowladda Soomaaliya ma ka raaliya su'aashaasaan rabaa inaan weydiiyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirada xildhibaanada federaalka Soomaaliya inay iiga soo jawaabaan anigoo ku hadlaya codkii shacabka Soomaaliyeed salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
ra-iisul wasaare su-aalahan intaan ka jawaab maadaama su-aasha canshuurta aan dhowr jeer ka jawaabnay taa dambe aan qaadanayna marka waxaan rabaa hal wareeg u dambe aan qaadanaynaa marka saasaan samaynayna soo dhawow waxaan jeclaan lahayn inaad tobigyo kale aan cover garay السلام عليكم as dhegaysana hadda waay su-aasheedaan toos u galayaa magacayga waxaa la liibaan waa mahadsan tahay ra-iisul wasaare ka soo qaybgalka hadda qofaa su-aasha la sii mogta saa adiga su-aasha u rabtid in lagu dhegaysto qofkaan su-aasha u rabaa السلام عليكم ilbaxnimo marka waa mahadsan tahay ra-iisul wasaare ka soo qaybgalka nagala soo qayb gashay sidaad ka warhaysid oo saaxiibkaygii xildhibaan maxamed haaruun hore u sheegay wuxuu dhahayay in maaragtay canshuuraha hay-ad independent ah ee aruuriso waana ka warhaysa aniga waxaan ka imaaday kenya revenue authority wax la dhahaa canshuuraha aruuriyo wasaarad maaliyadda dowlad aruuriso mar hore ugu dambeysay waxay fududeynaysaa in oo isla xisaabtanka labo in aniga ganacsada ahay mana u malaynayo ganacsada diiday canshuurta inuu ku jiro ganacsatada waxaa kaliya loo baahan yahay in la fahansiiyo su-aalaha badanaa ay qabaan waxa loogu qabanayo waxqabadka waaye in la educate gareeyo ganacsatada laftigooda waxqabadka natiijo la tusiyo waxaa loo baahan yahay marka waa result waxaa siisa anaa qaybinaya gabadhaas mara casad ugu horreyn waxaan salaamaya ra-iisul wasaaraha bacdi salaam magacayga maryam yuusuf maxamed waaye waxaa ahay arday oo dhigata jaamacadda simad kuliyadda qaanuunka intaa markii laga taga su-aasha qabo waxay tahay waa sababta oo xukuumadda hadda dan qaran oo dowladda soomaaliya ee dhalinyarada u sii weysan tahay xaqa ama miisaaniyadda ay ku leeyihiin siyaasadda weli lama arag dhalinyarada soomaaliya hadda jaamacadda ka wada baxay ama qaarkood hadda jaamacadaha ku jiraan xubino muuqda kama lahan siyaasadda oo siyaasadda kuma jiraan doorkeena siyaasadda aan ku lahayn aaway waa maasanta بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة وعبد الناس إسماعيل نمهد علينا منبر وحنا سلامة يا رئيس وزراء وسلامة السلام عليكم أنا سؤال شيء عن شور يلعكم الصاف سنة وحنا له هردي الله وحيتها إثيوبيا وبدين الكل للسي waxaan la yaabsanahay dowladdaada sababta ay SSC qaatumo ay u aqoonsan weysay oo awdal state iyo maaqir awdal state-na loo soo dhaweyn waayo ilaan dadkaas callankii buluuga ee naga wada dhexeeya ee wataan halkan yaal ra-iisul wasaare taas waa very important tan ku xigtana waxay tahay ra-iisul wasaare adduunka innovation iyo technology ayaa la isku dhaafay oo dhallinyaradii ay ka lacagaysteen laakiin ayaan dhaweyd waraaqan aragnay oo bangiga dhexe oo idinkaas yimaada ka soo baxay wuxuu yidhi cryptocurrency waan ka joojinaynaa waddanka cryptocurrency waa lagu dhergay ra-iisul wasaare markhaatiroolaa jooga marka dhallinyarada inta shaqo kale loo raadin lahaa loo abuuri lahaa why are cryptocurrency u baangaraynayaan oo innovation iyo technology iyo loo samayn kari waaye aad u mahadsan tahay thank you hal su'aal kale aan ku daray aan ku soo xiraa أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي وأبوكر أحمد عبد القادر كان الصعود جامعة أمد الصوماليات وأن ومهد علنا يا رئيس وزراء
dhalinyarada fursad u siiyey inay su-aalo ku weydiiyaan su-aasheeda haddaan u gudbo su-aasha aan weydiinaya ra-iisul wasaaraha waxay tahay ra-iisul wasaare maxaa kaaga qorshaysan musuq maasuqa markii la eego hay-adda la yidhaahdo national transparency waxay soo saartay musuq maasuqa kaalinta koowaad inay soomaaliya kaga jirto maxaa soomaaliya kaga qorshaysan ra-iisul wasaare maxaa laga bedelay musuq maasuqan wax walba in adeerow iyo musuq maasuq iyo qashina wax walba lagu sameeyaa maxaa qorshaysan okay waxaan sameynaynaa su-aala halkan ka qaadana kadibna ra-iisul wasaarahan siinaynaa hay sii daa markii may ku hadal oo ahay degmada hudur gobolka bokool anoo magacayna raabdeos noogoor su-aal gaaban may weydiiyey dowladda soomaaliya lama jaro lama sanay jarta ra-iisul wasaaraha lama sanay jara may su-aal oo ah ra-iisul wasaare adoo gobolka bokool aan dhalatay geek reer bokool ada una koo tiriyaane unoo go-doonka jarna gobolka bokool mudnaanti una koo fadaani koo waayna may gobolka bokool aan gobod wal yar iyo wal badan wal adag geeko dhiibisho leen ra-iisul wasaare waa kaas su-aasha reer bokool waayo waa mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin su-aashii la xiriirtay canshuuraha waxaa moodaysaa walaalkeennii halkan inaga weydiinayay malaha in ay iskaga yar qasan tahay canshuurta hadda cusub marginka ah ee la dhejiyey maxaan ku dhaha war ka yimid maaha canshuur ganacsade yar iyo ku weyn yani waxaa waaye shacabka soomaaliyeed bay saaran tahay intanay saaran tahay biyaha cabayaan bay saaran tahay laakiin qofka ganacsada ee dukaan kale ma saarna taa horta inuu fahmaa la rabaa shacabka soomaaliyeed baa canshuurta bixinaya markay ugu dambeysa oo qofka ugu yani fine the end userka ugu dambeeya qofkaa wey qofka ay lacagta fuulayso qofka ay tahay inuu ama ka sheegto ama ku sheegta kaas wey laakiin qof ganacsada asaga wixiisu waa haystaa taa intaasaan ayaan dhihi lahaa ciidamada Ethiopia ee jooga dalka markii hore Amisom bay ka mid ahaayeen waad ogtihiin qaarna nan Amisom bay ahaayeen oo wadanka way joogeen Seyraban baa ku joogaan hore waana naga horeeyeen oo arrimo hore ahayd laakiin hadda anagu caalamka waxaan u sheegnay cid walba u sheegnay Ethiopia haddii aysan MOU-gan ka noqon mission baa soo socda yar oo tiradiisa kooban oo insha Allah markii sanadkan uu dhamaado ciidamadan faraha badan ee Amisom way bixi doonaan mission kooban oo ilaa iyo 11 meelahaas ah oo waxyaabo la yaqaan oo 1 2 3 ah qaban doona ayaa soo hari doona missionkaas haddii aynan ka noqon MOU-ga Ethiopia si cad ayna uga noqonin oo aysan ixtiraamin oo aysan respect garaynin midnimada iyo gobnimada iyo territorial integrity-ga Soomaaliya kama mid noqonayaan ciidamada Ethiopia haddii ay sii joogaanna magac kale yeelan doonaan taas waan u sheegnay adduunka oo dhan waan u sheegnay ayagana waan u sheegnay cid walbana waan u sheegnay taas marka waa ciidamada Ethiopia iyo maxaad ka yeelaysaan ninka odayga halkan uu ka soo jeedinaya aad buu u mahadsan yahay dareenkiisana uu ku mahadsan yahay Revenue Authority haddii aad akhrisay heshiiskii NCC baydhaba sanadkii hore heshiiskaas waa oo arrimaha federaaliinta maaliyadda waa lagu soo heshiiyey sidaas ayaa heshiisku uu yahay waxaa dhimanun hay-adihii inaan abuurnaan oo dhiman marka dariiqii baan kusii soconnaa laakiin kaas waa heshiiskaas waa samaysan yahay Maryam dhalinyarada iyo miisaanka siyaasadda anigu caawo dhanba waxaan halkan la fadhiyey waxay on lahaa markii horeba idinku bilaabay idinkaa idiin soo celinaynaa awooddii idinku istoorta marka taas nagala shaqeeya inaan awooddii idiin soo celino baasha ay dad yar oo kooban u luqunji baadhnaato taa nagala saara meesha aynu soo ceshano dhalinyaradu ha soo ceshato awoodda dhalinyarada miisaanka siyaasadda iyo meeshay rabaan ma istaagayaan haddii aysan codkooda aysan ku ciilbixin oo aan laga daynin nidaamka indirect electionska aan u bixinay shidada ah haddaan laga daynin marka annagu ka xukuumad ahaan
waxa aan ku taagannahay aan ka shaqaynaynaa marka isku meel baynu taagannahay aynu iskaashanno aan ka shaqayno ayaan ku dhihi lahaa aad baad u mahadsan tahay cabdinaasir dr cabdinaasir soolo waa mahadsan yahay dee waxaa waaye waa ethiopia ku xanaaqsan yahay intaan baase ka dhihi lahaa maxaan ku dhahaa arrinta khaatumo iyo awdal state buu yidhi khaatumo horta waxaad ogaataa dee dowladda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed oo dhan bay dowlad u tahay waxay ixtiraamaysaa dadka soomaaliyeed oo dhan waxay ilaalinaysaa duruufaha kala duwan ee dadka soomaaliyeed oo dhan ayay ilaalinaysaa khaatumo waxaan u malaynayaa markii ay dadka deegaanku oo ay garaadadu ay u wada dhan yihiin ay fadhiisteen oo go-aan gaareen dowladdu waxaan u malaynayaa mowqifkeedu waa caddaa dowlad warkeed qoraal maxaa la jira war dowla warqadu ku yaallaa waxaan u malaynayaa warqaddaa inaad ka akhrisay mar labaad haddana waxaan filayaa mowqifka dowladda inaad warqaddaa ka akhrisay haddii aad leedahay ma state loo aqoonsado stateka hadde wuxuu u baahan yahay waad og tahayoo conditions uu leeyahay iyo tallaabooyin ayuu u baahan yahay laga rabo inay maraan dadka deegaankuna ay ka wada tashadaan marka geedi socodkaas ayagaa iskale laakiin annagu intii nooga ekayd ee ahayd in ayagu ay markii horeba ay ku dhawaaqeen waxa ay ku dhawaaqdeenna waa u aqoonsannay waan u aqoonsannahay waana kala shaqaynaa laakiin waxaa waaye wixii intaa ka soo haray waxaa waaye dadka deegaanka ay u taallaa arrinta awdal state anugu dee waxaan u malaynayaa is different arrintaasi waxaa waaye waa arrin aanan kolley adiga iga warrantaan u malaynayaa laakiin dadka soomaaliyeed reer soomaaliya iyo reer waqooyi reer somalilan waxaan jeclaan lahayn ayagoo mid ah oo nabad ah oo walaalo ah oo dalkooda difaacanaya in ay ka mid ahaadaan dalweynahooda soomaaliyeed oo midnimada soomaaliyeedna ay adkeeyaan wax alla wixii jira ee midmadow ee jirana in dadka soomaaliyeed ee dowladda soomaaliyeed iyo koonfur kala dhexeeyana waxaanu diyaar u nahay weliba ayaga oo dadka soomaaliyeed aad ogtihiin ee reer koonfureed aad ugu tanaasulaan diyaarna u yihiin inaanu taa anaguna ku hogaamino dadkeenna oo aanu tanaasulaad badan aanu muujino waxaana rajaynayaa haddii ay doorasho ay dhacdo oo ay madax cusub iyo nidaam ay dadku soo doorteen ay yimaadaanna ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa inaan isla jaanqaadi doono oo ay soomaaliya oo mid ah oo nabada oo wada walaalo ah kulligeed taas inaan heli doono una soconno taasaana ka shaqaynayna waa mahadsanta reer bakool waa runtaa arrintaas anigu waa lagaga fiican yahay arrintaas adaa ku fiican laakiin waxaa waaye waxaan jeclaan lahaa inay qolada bangiga iyo wasaaradda maaliyaddu iyo hay-adda n c a oo howlahaas noo qaabilsan inay bal arrintaas caawal ay weydiinayo way arkaan qaarna way joogaan baa laga yaabaa inay dib eegis ku sameeyaan waa mahadsan tahay arrinta ku saabsan bakool oo go-doonsan waxaan horta halkan runtii aada uga ammaanayaa dadka reer bakool gaar ahaan dadka reer xudur oo geesiyaal ah oo in badan ay meeshaa ku go-doonsanaayeen haddana uga dhaartay eriyadaas meeshaas nimankaas ay joogaan iyo meelo u dhowba inay nimankaas khawaarijta usoo dhowaadaan oo difaacay qorshaan leenahay qorshaan wadnaa ilaahay idankiis oo si xoog leh u socda qorshahaasina wuxuu uu ku taagan yahay meelaha ugu horeeya ee xisaarka ama go-doonka laga qaadayo ee la xoreynayo eriyadaas waaye marka insha allah waxaan leenahay sabra sidaad u samirteen u samra geesinimadaad kula dagaalanteenna sii wada oo kula dagaalama iskana celiya aad iyo aad baan idin salaamaya waad ku mahadsantihiin aan leeyahay mudan ra-iisul wasaare waxaan ku daraynaa hal mar kale intaan soo xiranaa ninkaas odaygaasi ninka ku ag fadhiya ninkaasi marka horeeto asalaamu calaykum marka horeeto waa salaamayaa ra-iisul wasaaraha waa habeenkii ugu horreysay aan la kulmo ra-iisul wasaaraha mudan ra-iisul wasaare magacayga waxaa la yidhaahdaa abukaate maxamed cabdi kadiye
kala tirsan bahda qareennada lehna xafiis qareen badanaa yacni macallin jaamacadeedna ah marna xil ka soo qabtay gudoomiye maxkamad gobol aada u fahamsan habraaca sharciga soomaaliya iyo dhibka soomaaliya shuruucda ka haysto marka madane maxay tool raali noqo badana maxkamadaha joognaa gudoomiye garsoor aan dhahnaa marka mudane ra-iisul wasaare waxaan su-aalahayga aad u saaran yihiin xagga iyo cadaaladda iyo garsoorka sidaan ognahay adduunyada tallaabada ugu horeyso ee dowlad ay ku hirgasho waxaa la rule of law rule of lawna waxaa asal u ah sharci wax aan sharci ahaynna inta badan adduunyada haddii lagu dhaqaaqo waxaa badanaa dhacdo jallaafooyin badan oo siyaasiyiinta iyo dadka aan badanaa shuruucda aad u ilaalin haddii sharciga marka horeta aan yani hay-ad kastoo la dhisaayo ama xafiis kastoo la abuuraayo waa ku socdaa waxaa asal u ah in sharci la sameeyo oo sharci ay ku dhisan tahay su-aasha ugu horeyso aan weydiinayo waxaa waaye waa 3 su-aal oo isdul saaran waaye waqtiga la siiyo avokaat hal su-aal aad leedahay waqtiga aad u yar yahay su-aashaada ku dhow aad u maasan tahay su-aasha aan weydiinayo waxaa waaye marka ugu horeyso su-aashada xoogaa dariiqay maraysaa sababtoo ah qareenaan ahay waxaan rabaa inaan wax badan iftiimiyo oo ra-iisul ifhamaan raba raali noqo su-aasheeda waxaa waaye rule of law maadaama ay jirto soomaaliya waxaa inta badan xoogga la saaraa fulinta iyo baarlamaanka haddii si ahaan loo sii fiiriyo baarlamaankii iyo fulintiina habraaca adduunyada ay u dhaqanto inay kala madax bannaanaadaan wax loo yaqaano separation of power wax dhibkaas soomaaliya waa mid ugu horeysa aniga ahaan sharciyaan is leenahay taas waaye dowladda marka maxay ka leedahay haddaad sii fiirisana dastuurka qodobka 97 farqada 2 oo sheegayo in xukuumadda markii la aasaasayo oo adiga prime minister u tahay waxaa ku qoran in laga soo dhex saarayo qaar ka mid ah baarlamaanka taasoo ay cilad ku tahay dowladnimada ee loo yaqaan rule of law oo dastuurkii ku qoranta xogaa qadara jiro hal noqo xeer sidoo kale waxeer waxaan gudbaa halkaas wasaaraan weydiin noqo waxeer su'aal kale ay socoto waxeer hal noqo cambi waqti badan qaadatay garsoorka mid kale garsoorka u socdo hal noqo cambi hal noqo waxeer garsoorka waa hal daqiiqo si mid kale hal daqiiqo ma 10 seconds su'aashaada 10 seconds okay midda labaad aan weydiinaa waxaa waaye waa maxay tiirka labaad ee xukuumadda u degsan ee ah in la dhiso hanaan cadaalad iyo garsoor waa maasantahay soomaaliya ilaa afkaato waa maasantahay waa maasantahay waxaan jeclahay su-aasha inay straight noqoto dadkaan oo idila gacmaha u taagan yihiin ninkaasi anaa meesha maamulay si nidaam ninkaasi ninka taagansi السلام عليكم دمان waxaan salaamayaa wasaaraha aada ku salaamay wasaare su-aasha horta magacii waa cabdiraxmaan jaamac macalin kana socda bahda waxbarashada iyo bulshada rayidka su-aasheeda waxay qusaysaa waxay tahay wasaaradda waxbarashada saan ognahayba macallimiin badan ay qaadatay haddana macallimiin kale inay qaadanayso ay kusoo shaacisay waxaa jirta marka private sectorka tababarada iyo waxyaabaha wasaaradda waxbarashada ay bixiso ee public sectorka ay siiso maxay u heli laayihiin sababta waxay tahay bara soomaaliyeed oo macalinka private ka shaqeynayo sidoo kaleentan midka kaleentan public ka shaqeynayo waa bara soomaaliyeed marka maxaa u qorsheysan wasaaradda waxbarashada barayaasha kaleento private sectorka ah in macnaha dhankaasi iyo tababarada ay helayaan macallimiinta public sectorka maxaa u qorsheysan aada ku salaamaya gabadhaasi adiga fadhiis gabadhaasi بسم الله magacayga waa qamar waxaa ahay ardayd ka soo qalin jabisay jaamacadda muqdisho sanadu markay 2023 marka hore waxaa sharaf ah inaan ka soo qayb galo madasha mimbar waana markii ugu horeysay oo aan ka soo qayb galay goob uu xaadir ku yahay ra'iisul wasaare xamse cabdi barre sharaf ay ii tahay su'aasheeda haddii aan u guda galo waa uu ku mahadsan yahay ra'iisul wasaare waxa uu dhahay anaga dhalinyarada waa shaqaalaysiinayna hana la dagaal galaan aad u wanaagsan tahay balse wali waxa jirta si macnaha madax ka taabasho ah dawladda dad baa la shaqaalaysiiyaa
dadka la shaqaalaysiinayana waxaa lagu shaqaalaysiiyaa ama xildhibaana u qaraaba wasiira u qaraaba ama xubin kasta oo dowladda ku jirto qof bay keensataa xataa marka si public ah loo soo bandhigo qof walba qofkiisuu dhahaa hala ii madax taabto marka qofka aan qof dowladda ku lahayn yaa u maqan su-aasheedu waa intaas waa mahadsan tahay eeg waxaan rabaa mikrofonkeen markii soo wareeji mikrofonkeen hadda gabadhaas su-aalay nii weydiisay kulligii waa ku wada farxday soo ma marka qofaas aan siinayaa qofkaasa su-aashiisa nii siinaya kulli kama wada gaarin ninkaas sii muraayadda wato ninka muraayadda sit السلام عليكم مقعي وعلي راذا عبد الستار حسن علي صدن اللي حسن عن جرا وحان وشرحنا هاي مدحوينها كونفور قلبيت waxaan rabaa su-aashaydii inayn siyaasad ka dhigin oo aan ka dhiga mid cadaalad midna caafimaad sababtoo ah siyaasad ana iga buuxda hadday wax tarayso tan caafimaadka waxay tahay tan caafimaadka waxay tahay dadkii gobolka banaadir magacyadoodii tiradooda soo sheegay aidisa laga halin la yidhi isbitaalkee la geeyey waa maasataa marka tan cadaaladdaa rabaa waa maasataa halkaas ka sit cakisit tan cadaaladda waxay tahay waa maasin taageerayaashayda waay cabsitaar anaa meesha maamulo ma fahamta maamulkeena halkaas ka sit magacaygu waa maxamed saciid yuusuf joogo garowe assalaamu calaykum assalaamu calaykum mudane ra'iisul wasaare magacaygu waa maxamed saciid yuusuf joogo garowe haddaan nahay assalaamu calaykum mudane ra'iisul wasaare assalaamu calaykum assalaamu calaykum mudane ra'iisul wasaare magacaygu waa maxamed saciid yuusuf joogo garowe assalaamu calaykum mudane ra'iisul wasaare magacaygu waa maxamed saciid yuusuf joogo garowe haddaan nahay shacbiga reer puntland waxaanu dareemaynaa in xukuumaddaaduna cunqabataysay oo mashaariicdii deeqaha caalamiga ahaa ee puntland loogu talagalay horumarinta ahaa aad ka hor istaagteen xal nooceeya ayaa u haysaan maadaama iska dhaaf wax kale aad idinku mashaariicdii aad ka cunaqabatayseen haddii arrimo siyaasadeed ay jiraan ma ahan mashaariicda deeqaha ah in shacbiga dadka reer puntland xaq bay u leeyihiin xuquuqdooda caalamka ugu talagalay inay soo gaarto sabab aad u hagardaamaysaan ama u joojisaan garan mayno marka xal noocee su-aalaha jawaabahooda iyo soo gabagabayntaada waa mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay walaalkay arrinta abukaataha waxaa ka horreysay oon soo dhaafay arrin musuq maasuqa oo ka hadlay wiilka dhallinyarada waan isku qabanayaa waa runtii rule of law waa dee dowladnimada abukaataha suu sheegay in powerada la kala duwo oo separate of power la sameeyana iyadana waa sidoo kale waa muhiim halka arrin intiisa badan dee commenty iyo tusaaleyn bay ka ahayd laakiin su-aashiisa uu qabo oo ah in ay fiicnayd in qof baarlamaanka ku jiraay uusan xukuumadda gelin dad badan oo soomaaliyeed baa qaba anigu waan joogi jiray oo civil society-ka iyo dadka aqoon-yahanadii intaba waan ku dhex jiri jiray halkanna waa fadhiyaan diin iyo weligood saasun baan dhihi jirnay yaan la isku dhex darin hal la kala duwo waxaan rajaynayaa aragtida hadda soo socota iyo habka siyaasadda dambe ay noqon doonto dowladaha dambe waxaan rajaynayaa haddii la adabtigareeyo dastuurka iyo siyaasadihii hadda inihii amendmentka lagu soo sameeyey waxyaabaha lagu soo daray baa waxaa ka mid ahaa in ay xukuumaddu separate ka ahaato arrimaha baarlamaanka oo ay ka duwanaato oo uusan qofku labadaas uusan isla geli karin hal mar marka taasna waxaan filayaa inay dowlad wanaagga inay ka mid noqon karto waana kugu taageersanahay arrinta macalimiinta gaarka intaan ka dhex bixin arrinta dee musuq maasuqa waddankeenna musuq maasuq waa ka jiraa adduunkao dhanna waa ka jiraa innaga oo dee hay-adaheennuna ay jilicsan yihiin in fara badanna dee uba cidla inagu helayay oo ay meel cidla u fafadhinayna
wayba kasii daran tahay laakiin waxaad markhaati ka tihiin muddadii koobnaydan joognay inaan intaan la dagaalami karin la dagaalanay waxaan ka soo saaray shuruucdii ugu badnayd waxaan garsoorka dadaalka aragtaa la geliyey waxay gaartay dadkeennu in maxkamadihii lagu kalsoonaado uu joogaa abukaataha waxaa waaye in dad soomaaliyeed oo sharaf leh la eedeeyo inay maxkamadaha hortagaan inay beri noqdaan oo maxaan ku dhahaa ay beri ka noqdaan oo waxba lagu waayo in wax lagu helo in wax fara badan aad arkayseen oo socotay intaasoo dhan waxay naga ahayd inaan la dagaalano arrinta musuq maasuqa waanan anigu waxaan u arkayaa arrin waajib diiniya oo islaamiya inay tahay in lala dagaalamo xaaraanta de waa xaaraan waxaan la dagaalamo marka taas tabarta dowladdeenna iyo hay-adaheennii oo weli jilicsan ayaa keenaya arrinta ku saabsan arrintan transparentyga iyo international transparenty hay-addaasi ay sheegtana waxaad ogaataa in fara badan oo ka mid a kuma salaysna waqaa'ic saxa laakiin waxay ku salaysan tahay waxay wataan criteria iyo hay-ado hormaray procedurekan ma martaa markaad wax samaynayso sidan ma martaa adduun hormarayna way ka yimaadeen way haystaan haddii taa lagaa waayo wixii adiga waa adaa lagugu xisaabinaya marka taa marka halbeeg inooma noqonaysa halbeegeennu waa kan inagu samaysanay xaqiiqada eenu nimaadno in wax laga qabtay shaki kuma jiro laakiin inuu weli jirana waa la hubaa waan la sii dagaalamaynaa haddii ilaha yidhaahdo ardaydii halkaas walaashay qabar waa runteed arrinta shaqaalaysiinta dalka waa arrin aan habboonayn sidii saxdaydna aan ahayn shaqaalaysiinta waxaa la rabaa shaqada in loo tartamo waad ogtihiin dalkeennu wuxuu iskaga salaysan yahay nidaam la 4.5 wasaaradda reer hebel baa lahaa hebelkan reer hebel baale reer hebel baale dhabarka taabadkaad sheegayso waa sax ay sheegayaan dhallinyaradu waa wax jira laakiin waxaad ogaataa annaga waxaa naga go-an inaan taas la dagaalano arrintaas waxaan samaynay oon diyaarin hadda ka hor xukuumadihii naga horreeyey marbay isku dayeen arrintaas waad ogtihiin waa socon weydi markay lafahoodii u cabsadeen inay la rido ayay ka carareen oo ka noqdeen annaga waxaan diyaar u nahay inaan ku dhacno xataa waan samaynaynaa waxaan rajaynayaa inaan gaarno ilaahay idankiis waana soo bandhigaynaa maxaan ku dhahaa sanadka soo socda inay ku bilaabato in shaqo kasta la soo dejiyo loo tartamo dadku ay weliba haddii aan soomaali lagu kalsoonayn cid kale xataa aanu sheegnay hanoo qabatee waxa waaye laakiin si midaysan oo loo dhan yahay oo loo siman yahay oo aan cid gaara lagu qori karin oo loo tartamayo ayaa shaqooyinka insha allah aan idiin ballan qaadaya sanadka dambeyna ku bilaaban doonaan haddayna ka soo hormarin arrintaas qofku marka inuu imtixaan galo tabartiisu meeshay dhigto inuu la tago laakiin inuu maxaa taqaanaa inuu aado yaa taqaanaada yaa tahay inuu ka baxo ayaan rajeynaya haddii ilaha yidhaahdo arrinta dee cabsatar aidiska ilaahay inama tuso cudurada xunxun marka waxaan rajeynayaa gobolka banaadir iyo malaha su-aashaas ayay ku habboonayd maxaan ku dhahaa laakiin arrinaan hadda aniga haddana kaga jawaabayo amay ku habboon tahay maahaan u malaynayaa maxamed siciid oo halkaas ka hadlay reer puntland aad buu mahadsan yahay arrintaas ah dowladda soomaaliya dowladda federaalka cunaqabataysay mashaariicdii puntland dadka soomaaliyeed baan rabaa inay garnaqaan cidda cunaqabataysay iyo cidda kale tusaale ahaan macallimiin baan qaadanaynaa soo maaha dowlad goboleedeed u qaybsanaysa soo maaha 400 soo maaha sow dhallinyaro shaqo helaysa ma aha ma annagaa diidnay yaa diiday yaa ka cunaqabateeyey waa miitaal yar weye waa miitaal yar projectskoo dhan dhammaan brojectiyada dalka yaallo oo dhan ee dalka ka fula oo dhanna waa sidaasoo kale halkaasoo kale waaye ama askari la qoraya ha noqoto ama macallin la qaadanaya ha noqoto ama jid la dhisaya ha noqoto ama xoolo la daweynaya ha noqoto ama ceel la qodaya ha noqoto dhammaan halkay meeshaas sida loola dhaqmeen baa kuwa kalena loola dhaqmaa marka
walaalkayga halkaa ay weydiinaya waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala markii uu yowmu beder ay dhaheen qultum annaa haada maxay dhaheen muxuu ilaahay yidhi qul huwa min cindi anfusikum idinkaa isu diidan annaga ma diidanin idinkaa diidan mashaariicda waxaan leeyahay dalka yaan la siyaasadayn mashaariicda yaan la siyaasadayn dadka ha loo ogolaado dalku muxuu mashaariicdu say ku hirgelayaan dadku waa inay aada u fahmaan mashaariicdu waxay dowladda soomaaliyeed ee federaalka iyo waxan ayadaa ka soo shaqaysa caalamka ayadaa ka doonta ayadaa ka keenta 70% budgetkeennu waa mashaariic ay caalamku bixiyaan caalamka haddii laga keeno dowladdu waa lala xisaabtamaa accountability way accountable lama nahay caalamka waxaan u baahannahay meesha la geeyay inay dowladdu og tahay waxaa loo baahan yahay auditka xagga joogaayo auditkana inuu la shaqaynayo oo haddii auditka federaalka la shaqaynaya ka xagga joogaayo wasiirka inuu la shaqaynayo agaasimuhu inuu la shaqaynayo haddaan saasi dhacaynin sidee mashaariicdu ku soconayaan haddii la yidhaahdo agaasimo halkan ma imaanayo agaasimo waaxeed xataa looma ogola iska dhaaf wasiir iyo agaasimo guud iyo hebelle iyo iska dhaaf agaasimo ka mid ah dowladda puntland haddii la yidhahdo xamar ma iman karo haddii la yidhaahdo kuwa halkan jooga xagga ma tegi karo wasiirkii tegi karin oon agaasimihii tegi karin oon agaasimo waaxeed tegi karin oo coordinatorkii project uusan tegi karin oo uusan xisaabiya tegi karin oo uusan auditorkii tegi karin yaa mashaariicda hortaagan marka idinkaa dadka soomaaliyeed baa oo ay reer puntland ku jiraan ayaa garta la weydiinaa gariloo islaam sooma dhihin gariloo islaan ayagaa la weydiinaa walaalahay waxaan rajaynayaa madaxda puntland inayna mislead garaynin dadka oo aan waxaas loo sheegin laakiin waxa saxdaana waa sidaa dadka in loo ogolaado projectiska siyaasaddaa rabta aaminsanow adugu haddaa rabta meeshaa joog laakiin u ogolow dadka inay projectiyadu u tagaan u ogolow annagu marka taasna leeyahay waxaan rajaynayaa inuu walaalkay Saciid inuu si fiican u maqli doono oo si fiican u dhageysan doono ama una fahmi doonaan ayaan rajaynayaa marka intaas waxaan filayaa inay su'aalihii ay ahaayeen ra-iisul wasaare saac caawa aad baan horta marka hore kaaga mahad celinaya inaad kasoo qayb gashay madasha mimbar sidaa arkaysa madashan caawa waa wada dhalinyaro qaabka xitaa interactionka u dhacayo waa sawaxanka waa taageerada waa sacabka marka way ka duwan tahay markii dadka waaweynaa isku imanayeen marka inaa aad ugu soo dhawaatay dhalinyarada oo su'aalahooda toos uga qaadatay kuwii gobolada joogay iyo kuwa madasha jooga aadan kaaga mahad celinaya waxaa kaloo arkaysaa prime minister in dadka soomaaliyeed ay canshuurtii xoogga saarayaan arrinta security marka hore dhibka ku ahayd hadda canshuur noloshii marka dhaqaalihii baa laga hadlaya dadkii sidii noloshoodii isku bedelay sidii dal caadi aan soo dhawaanaa si aad sheegi jirto kale marka mar hadda dhaqaale laga hadlayo ma fahanti marka wadamadaas la joogo waxa ugu weyn laga hadlo waa shaqaaleysiin iyo dhaqaale waana labada su'aalood caawa hadda halka dul taagneed marka waxaan rajaynayaa halkan inaad ka qaadataan in policies-ka dowladda dan qaran labada sano u dhiman inay ku fuliso wixii dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaan ku siinayaa inay gabagabadii aad qaadatid soo dhow waa mahadsan tahay waxaan mar kale runtii u mahad celinayaa madasha waxaan u mahad celinayaa wejiyadan quruxda badan ee gabdhaheena iyo wiilasheenna iyo aqoon-yahanadeenna ee Soomaaliyeed ee halkan fadhiya iyo inta ina daawanaysay inta ina maqlaysaba runtii waan u mahad celinayaa aad iyo aadaan idinka mahad celinayaa walaalayaal waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waddankan Soomaaliyeed aynu inagu leenahay dadka Soomaaliyeed anahay isooga warrami mayno meeshaan ka nimid iyo meeshaan marayno iyo meeshaan aan u soconno waan isooga warramaynaa laakiin meeshaan ka nimid iyo maanta intaan joogno intaan waa isla ognahay waxaan u baahannahay isbeddel dhaba waxaan u baahannahay dadkeennu inay ogolaadaan u diyaargaroobaan sidii hore aan ku jiri jirnay inama anfacayso waxaan u baahannahay inaan iska beddelno sidii hore waxaan u baahannahay inaan ogolaanno inaan ka baxno circleka aan ku wareegayno iyo igu sintaan sheegaya siyaasad ahaan marka la joogo oo aan dadkeenna ku celinno awoodaan dadkeenna ku celinno waa qodob waxaan u baahannahay dhallinyaradii way joogaan waa kuwaan inaan hal xaqiiqa isla fahmno war dalkan
adduunkao dhan aa u soo socda waa waddan rich ah waa waddan ilaahay uu ku meesha uu ilaahay dhigay ay tahay meel istaraatiijiga waddankaas marka adduunkao dhan u soo socdaay wuxuu rabaa in uu xoolihiisa gashado oo deedna shaqo abuur dhaco oo aan barwaaqowno ayaa adduunka u soo socdaa annaguna aan rabnaa oon kala faa'iidaysano waxaa ku xidhan marka amnigeenna inaan wax ka bedelo war haddaan waddankan amnigiisa laga wada shaqayn oo aynu balaayadu hoosta inagaga jirto oo aynaan nimankaas isdhaafin halkanun baan taagnaanaynaa waa inaan amniga ka shaqayna marka oon amniga aan si dhaba uga shaqaynaa dhammaanteen oon laynagu mashquulin wax kale amniga number 1 waxaa kaloo laynaga rabaa oo laga maarmaan ah dadka Soomaaliyeed inay ka baxaan qabyaaladda oo dawladdeennii hore dumisay oo ina soo daashatay oo meel walba ina gaarsiisay oo nidaamkeenna kharibtay waxaan u baahannahay inaan ka baxno waxaan kaga baxaynaa politically markay timaado waa inaan axzaab aadna waaye waa inaan 4.5 iyo reehebel ka baxna waaye waa in walaalaha wada jooga ee halka kursi isku haystay reehebel ee isku dhintay ee isku quumayoobay inay kala nastaan waaye oo ay xaqooda kala qaadaan oo adduunka kala aadaan oo Soomaali kala aadaan iyo axzaabta kala aadaan waaye waxaan u baahannahay in aynu maanta midnimadeenna inaan xoog saarno fredka ugu weyn ee dalkan hortaagan marka laga tago nimanka argagixisada ah waa midnimadii dalka oo khatar ku jirta oo maanta aad arkaysaan inay dawladda leeyihiin annagaaba iskalo waan goosanaynaa oo nin Soomaalihi inta dhiiraday uu saxiixay oo dhahay waxa rabta samee halkaasaan maraynaa marka waxaynu u baahannahay midnimadeennii meel kastoon joogno inaan baadi goobno oo aan xoojinno ayaan u baahannahay si jiritaankeennu uu u wanaagsanaado waxaynu u baahannahay dawladnimadeenna inaan adkayno oo aan ogaano dawladnimada ayay ku jirtaa wanaag oo dhan iyo inaan adkayno arrinta siyaasaddu waa arrin qof waliba berri ka mid baa imaanaya maanta mid kale laakiin hay-adaheenna iyo dawladnimadeennu waa inay shaqaysaa mar kale waxaan dadka Soomaaliyeed u rajaynayaa guul waxaana leeyahay walaalayaal waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar tobnaad iyo boqolaadba dadka halkan jooga ee caawa isugu yimid ee dhalinyarada ee wajiyada quruxda badan leh ayaan u mahadcelinayaa markaan insha Allah sanadkan sanadkiisa kalena sida aan idin sheegay sanadkii horeba halkan iyadoo dad kale ay waardiinayaan aanu imid sanadkan sanadkiisa kalena waxaan imaan doonaa annagoo waxyaabo kale ka sheekayn doona hadii la yiraahdo oo horumar marka guul baan idin rajaynayaa aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh